السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. intaas kadib sida ciwaanku uu sheegayo layguna soo dhoweeyey aad baad mahadsantihiin. ilaahay baan subxaana wa tacaala ina soo waafajiyey inaan kulankan noocan oo kale aan u kulanno danta ummadda aan kaga wada hadallo. markii dan guud laga hadlayo waxaa la niyoodaa u dhowaansho rabbi subxaana wa tacaala in ajri laga helo ayay tahay in la niyoodo. saas aa inoo habboon marka niyadaan wanaajisana in sha allahu tacaala. intaas kadib qabyaaladdu siduu doctoorku sheegay waa mushkilo ummaddeena haysata inagu gaara ma jiro adduunyada cid qarankeedii burburisay oo baabi'isay oonan ahayn reerkan soomaali la yidhahdo aan ahayn ma jiro. allahina subxaana wa tacaala waddu inoo jeexay marka in badan baa laga hadlay in badan baana isku day la sameeyey. waxaan xusuusanaa dowladdii siyaad barre ama siyaad barre inuu yihi qabiiladda aan aasno waan aasnay eedna waxa weeyaan xal ma noqonin sababtoy tahay waddadeedii lama marin. waxaan ilaahay baa subxaana wa tacaala sameeyey. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi ya ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu. waxaan idinka abuuray lab iyo dhidig waxaan idinka dhignay shucuuban wa qabaa'ila shacbiya iyo qabiilo yaanu idinka dhignay. laakiin waxaa loo sameeyey litacaarafu. ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yihi inaad isku aqoonsataan. nabiguna salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ina yidhi tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum. nasabkiina waxaad ka barataan inta aydun qaraabadiina ka xidhiirinaysaan raxiimkiina ka xidhiirinaysaan. waxaa la rabaa marka aan baabi'ina wax meesha ku jira ma aha. wax ilahay ugu talagalay inuu jiro lama baabi'in karo. ilahay baa dadka sidan u sameeyey. laakiin adeegsiga wanaagsan ayaa loo baahan yahay in islaamku inoo dejiyey inaan raacno. mashaakil kasta oo adduunka jira xalkiisu wuxuu inoogu jiraa diinta islaamka. ilaahay subxaana wa tacala inoo geliyey. islaamkuna sidiisaba uu ka sareeyaa wax xataa qowmiyad la yidhaahdo. islaamku wuxuu arkaa qowmiyaddu inay tahay qeyb ka mida mashaakilka waxa weeye qeyb ka mida. wadaniyaddu inay tahay mashaakilka qeyb ka mida. waa markii dhinac xun loo adeegsado. haddii qabyaaladda dhinac xun loo adeegsado, wadaniyadda haddii dhinac xun loo adeegsado, qowmiyadda haddii dhinac xun loo adeegsado, waa mashaakilka ina haysta qeyb ka mida wey. marka silaaxdu xadayn baa la yidhaha waa mindi laba af leh. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi ina haadihi ummatukum ummatan waaxida. ummadda dhan waa maxay? waa ummatan waaxida. jinsi kasta ha lahaato laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin ila bitaqwa. suu nabigu sheegay salى اllahu alayه wasalam carab cajami ka fiicani ma jiro, cajami carab ka fiicani ma jiro. dadku wuxuu kala fiican yahay keliya waa taqwada ilahi. ina akramakum cind allahi atqaakum si aayadda hore ay u tiri. marka in aan waxaan ku kala ficnaano ay tahay keliya iyadoon ruuxu anaa fiican odhanaynin. laakiin recommendationka waxaa iska leh oo taskiyada bixinaya allah subxaana wa tacaala. wuxuu yihi allah ina hadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabukum fataquun. ummaddan waxa weeye tani waa ummadii keliya ahayd waa ummatan waaxida. jinsi ay dooni ha lahaato wa ana rabukum. allahna subxaana wa tacaala waaxid weeye isaga keliya ayaa u rabbiya. marka inaan waddadaas iyadaa aan qaadno oon qaabkaas xalka u raadino in inaga hamigeenu uu kaba sareeyo haddaan muslimiin nahay inaan kusoo wareegeysano mashaakil qabiil, inaan kusoo wareegeysano meelo soke iyo xuduud juqraafi. waan ka sareynaa. nabi maxamed salى اllahu alayh wasalam soo diridda u ilaahay soo diray wuxuu sheegay inuu soo diray caalamka o dhan wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. caalamka dhan baa raxmad lagaaga dhigay oo lagu soo diray baa lagu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. marka adeegsiga khaldan waktigii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam ayaa waxaa dhacday in ay laba nin islaayeen
iyadoo magaalada Madiina la joogo ay laba nin islaayeen nin qoladii muhaajiriinta la oranayay ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam la socotay ee Makka iyo gobolada kale ka kala yimid ee diintooda la soo carartay iyo nin ansaariya oo qoladii loo yimid ee soo dhaweynta lahayd ee wadanka sii deganayd inay islaayeen dadna ninkii muhaajiriga ahaa oo ninkii kale dabada ka laagay ayaa dhacday dadna kii ansaariga wuxuu yiri yaa lal ansaar kii ansaariga wuxuu yiri yaa lal ansaar kii muhaajiriga wuxuu yiri yaa lal muhaajiriin yani waxa weeye ansaar hey kana wuxuu yiri yaa muhaajiri hey waa maxay waa yaa ree hebelaw yaa ree hebela saan ognahay labadan magac waa laba magac oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo nabigiisu ay bixiyeen way الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم لقى باللابو إلى إيو والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مناجر إليهم إلهي سبحانه وتعالى أسماء ذابحي وأسماء طاهرة وطاهرة وقيمة بدنوي لكن أديكس خلدن بالا أديكس دي وحلقة دي قبيالات بالو بدلي سيدي وناك سنيد أهيد إن دادو ولا التنمذا لقى الراعو ودينا وناك سن لو أديكس دي أهيد أياسي خلدن loo adeegsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam baa loo sheegay maxaa dhacay waxa la yiraahdaa intaas dhacday ya al ansar ya al muhajirin baa la yiri wuxuu yiri nabigu alayhi salatu wasalam abi da'wa al jahiliyyati wa ana bayna adhhurikum ma anigo idin dhex jooga aydun da'wa al jahiliyya habar wacadki jahiliga aydun isticmaalaysan bir nabigu alayhi salatu wasalam marka wuxuu yiri da'uha fa innaha muntina way uraysaay iska daayay bir nabigu sallallahu alayhi wasallam وأوريساي كهرو إسكدايب طبعا وسيدا ورسولك الشيء أو أوريسا أرتدا يقاب دريدنا إنك أيا وحوي فرها كيجو مني آد أنقانا أونلاين نوجا شيء كينين مركا وحل إلى هذا يعني لماذا قال إلى هذا نجو محي رسولك أورتي محي نجور ويدي إنك محي نجور ويدي هذا النبي قورتي صلى الله عليه وسلم وأر فعلية أو نبوية وحال هذا نك كشقية بويد حركة نك بويد حركة وضع كمعناها هيا توبضع سوتشي ذي سعاركة وصنكم محدنا سجى توبضي هيا سجى كوداري مشينكا سجى جيدية وهيا إلى كذا ما تكبر سنتو وحبا يراتي دبسيا كلاغا ما arkayo laakiin dadka wadada maraya kala dhan of wala wadalay sanka wada haystaan marka kan maxaa uu urgalay marka way surgaleen sagiya shaqadii uu ku jiray way surgaleen wax dhiba kuma hayso baynama dadka banaanka maraya ay dhibayso qabyaaladu waa saas oo kale marka way surgalay inaga iyo qabyaaladu way surgalay taasa marka keentay inay inoo uri weydo النبي محمد صلى الله عليه وسلم أورتو تذكر رسولك لجوجي مهاجري أنصار لبدي مجاعي قيمها بنا أديكسك خلدن أديكسدينا مركو النبي عليه الصلاة والسلام وسيي دودي تيدا بنايد وعدي قيمها بنا وسيي وللداية بعشان وأوريساية هل كاس وجودن بيسي دبدن به مهاجري أنصار سليسا يا قبيل سلايا لما أرق أوس يا خزرج يا قبائل كي كلا إسلامي أردن كلكو إسلام كوي من حريست لها تمد كل ويكوذ بكسدين صوبتو يتا أديكسي وناكسنا أي أديكسدين بيكجبت بعدين وعن مركا أوبا هاي إن أنا رهنو عن الله سبحانه وتعالى حقي سو نقنو دينتين معان آنو نقنو وأن أديكسي وناكسن أديكسنو إن ما شاء إنه قبيل كأديكسنا إن نقطو ماشى حريرينتا وحوي قرابة حريرينتا إسكالمينتا إن إسكالميسيغا إني نقطو كهوسيا كروقادي ديسا إني نقطو لكن مركا إنو أديك سنة وحول بينتان صور دافناي وحجيري جيرتي واقي هوري إن مشاكل كقبائلكو أي كو كوبناين وحيقون أي كو كوبناين لكن ما أنت سياسة دي وحي قشي قبيالة دي بي قشي سياسة دي وصو قشي قبيالة دي سياسة دي هذه قبيلات كلهم واتكالي دونتان هذه سياسة دي قبيلة دي سوق شيء محا مركا حل نقونيا إن كسي دارينا مركا موقت إن كسي دارينو
ومر كذا ما يسان كسي دارن أو إن كررين نبا موقتا إن مركا أن إلهي وتوبكين الله أنو نقولنا سيدنا إلهي أنو نقولنا أن بهشن كتنازلون كهرنا أو أينو أرجنو سيدا أي أوريسو أو قرمون تاي أينو أرجنو أو أن إلهي أنو نقولنا نرهنا ربيو وأن كو توبكيني أننا وإنو تاجنا أن يا إسلام إيو يعني سكودنا يا إسلام يعني سكودنا تدك أنت ودم وددجن هذا ديمو كلليهن واسكودنوي هذا أفكار كلا من سيين أو رقم كلا دوليهن واسكودنوي إن النقطة دنتو تدك إسكو هيسا إن النقطة دينتو أي نقطة تا أنت دينتا إسكو هيسا إن النقطة مركين الإله سبحانه وتعالى أن كعب سنو القرآن كيدا لغفر في الهوان اللوبي ولكن آيات دنيا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير مركا كل هذا السيدات هاي أو أن ضدكو كلا عقل بدنانين كلا عقل أن لو كلا فعنانين مقال أن لو كلا فعنانين منصب إيو العق أن لو كلا فعنانين إن أبتع إلى هاي حمانتا إلى هاي أن درسون أو أن إنه هدان ضدكي أن هاي هرمود آنو نهاي انت إنك دنبايسا جيلك سو كوريا إنك إن دورانيا هورتا جيلك إنن جيلك هورا إنان كلا شرو جيلك إنك دنبايانا ودد في عن آنو مرو سي ودد في عن نوغا سو دو مران هدي أين وددي أي انتي نيو رئيس مرتاي آن مرو وحين نقونيسا إنان جيلك خائني إنان تاريخ دا خائمني إنان مستقبل كينا خائمني إلهنا سبحانه وتعالى هرتيسا ولين لا حساب تمي جوابتنا عن ديار سنو وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وهرين قف كستكو السلام يا منصبك يا مقعة وقوبتك فديو كل يقويه هنكي ضد إنه فلانقين لهاوي إنه شوغان بس هو حاج على ذي waqtiga layla soo xiriiray ama ogaadey doodan lafteedu aad buu koobnaa marka insha Allah tacaala waxaan halkan jeclaan lahaa inaan idin kula wadaago hal maasadan magaceeda waxa la yiraahdaa qalin maslaxo qalin iyo maslaxo waad garanaysaan baan filayaa inteenu wada Soomaaliga wada garanayna qofna loo qeexi maayo kulay maasadu marka waxay ka kooban tahay dhowr qaybood qof kasta oo dunida maanta guudkeeda ku sugan mid rafaadsan iyo mid faraxsan iyo mid murugaysan iyo kuwan xataa ka darbi jiifka ee rafaadsan ee hooyadaan maartay haysan intaba kulay waxa uu aaba baan oran karaa dhibaato kasta oo maartay halka ka timaada waa qabyaalad baa aasaas ah sababtoo haddaan qabyaaladaasi jiri lahayn waxyaabo badan oo maartay horumaro la gaari lahaa ayaa jiro laga baaqsan lahaa marka maasadu nacyo badan bay taabanaysaa waxayna ku bilaabmaysaa dadkaba qaar baan qadayn bar baan heli karin qureec qoxoontiin baa ku nool bar baa qoraxdii dhacday waagii qalac soo dhahaba afkoodu qaleel yahay ku nool hambadaad qubtaan bar baa qashin ka galo si ay quud uga helaan intay qufayaan carrada ka qaada xanuuna daran nolosha waa qayb ka mid ah qabyada waayuhu sidee ninkii qasri loo gogliyo gidaarka mid ka qotoma cibaaray qaybiyaan cid baanse ka qaadanayn qabyaaladii waa ka kow haday quwadii luntee markuu qaybsamo dhabuhu tashigu waa qayb libaax kan maanta aynu meesha u fadhino kale hadii wax la garan waayo ama la yiraahdo malaha waxba ay soo marsan inta la yimaado dadku uu tashado oo iyagu dantooda iyo halkii u jihaysan lahayn ay ka tashadaan waa qaybta ugu muhiimsan baa la oran karaa qabyaaladii waa ka kow haday quwadii luntee markuu qaybsamo dhabuhu tashigu waa qayb libaax qolada rabbi ka dhigiya qabiiladu ma aha ceeb laakiin qalad baa ka jira qabkadu adeegsataan qolbaha dadka iyaga ku nool walow qaarkood bulshada wanaaga u qaybiyaan bar baa jira kala qoqoba qareemada wada dhasho xumaantu qureec u tahay quudkii loo wada sinaa qaraabada ku dhow iyo qoyskiinu haday dhargaan qaan iyo godob baa ka iman markuu qadakii mudnaa ninkii qumanaan jiriye wanaaga qofkii jeclaa hadduu qalad yari ka dhaco gob waa loo qiildayaa run baa weligeed qadhaadh qormada aayaha dambe iyo qiimana keligeed u daa
waxaad qorshe leedihiin wuxuu qalbigaagu rabo qoraalka allah ka weyn qardaha waa laga durkaa qiyaas baa lagu socdaa wixii qadar baajiye waqtiga waa lagu qancaa wixii qadar baajiye waqtiga waa lagu qancaa ma jabo qunyar socod ma jabo qab iyo kibir baa shil dhala qabri iyo iil baa madow qiyaamay taal xisaab markaad gudan qayrkeed qiyaamka u joogsatiya salaad baa mudan qushuuc dadkana laba kala qoqobo qareen lama kala xigsado qabyaaladii waa gunnimo nin shaati qabiil sitiya qaswada waa laga durkaa dhismaha qaran waa muhiim qowlkaad la shir imanaysiiyo wuxuu qalbigaagu raba haddaysan isqaadanayn afkaa beenquutahaaduu qufulaa ka ron wixii aan kuu qalmayn haddaan dani kugu qasbayn qoorh baa ifka laga noqdaa qayrkaa lama daba fadhiyo hadda ka hor gabay aan mar hore atriye waxaa ka mid ahaa mar baa shay caqligu adoon doqon ahayn baa wax badan la iska daahayay mar baa shay caqligu diidan yahay lagu dangaadhaa marar badan baa wax uusan caqligaagu ku siinaynin iyo aad odhanaysaa nafta ku faraysaa inaad bal ku dangaadhood jarajarta inaad kaga tallaabsato laakiin waa marka uu hankaagu yahay aada og tahay naftaada ku qancisa waxaan inuusan niyada ka ahayn laakiin yoolkii weynaa iyo maaragtay aad doonaysa inaad ku gaadho halkeed rabtid wixii aan kuu qalmayn haddaan dani kugu qasbayn qoorh baa ifka laga noqdaa qayrkaa lama daba fadhiyo haddaan cidi qaabilayn wanaaggana qaadanayn laabtaada wixii ku qoran adoo qarsadaa ka roon qofkii nabar kula rabiya ha quusta cadaawuhiya mar baa qalbiga oo ku jaban dhoolaha laga yara qoslaa qol weyn labadii lahaa dantoodana qaybsan jiray samaantana quudan jiray hadduu cadow kala qoqobo qafiif ducfay noqdaan waxaan isku qabana iyo khilaafka dhexdeena yaal shisheeye iyo qoomam kale haddii loo qayshan lahaa qareen kama noqon karee inaguma isqaadanaa hadduu qoys ku dhaco markii qudha la iska jaro baroortii iyo qayladii iyo xinjiro dhiigoo qubtiyo khasaaraha joogtada dheeldheel ma qaboobaysay colaadahan qiiqa shiday qaangaar inta aysan noqon inaguma qaboojinaa labada godob kala qabee mar uun gacan qaad dhex maray qayb weeyaan naga midee sinaan ma u qaabilaa quursigu inuu yahay gunnimo horaa loo wada qiree hadday qolyo nagu dayaan qariib kuma nihin dhulkee qorshaha sahankeena iyo wixii ka qarsoon bulshada in loo qeexaa ma xuma midkii gebi dheer qarkii qowraar ka tallaabsadiyo dariiqay qodaxdu taal haddii aan la iska qaban walaalnimo waa qabiye xantiiyo qodobada sirta inaan qarsana haboon wixii inaga dhexdeenna ah ee dayna waa aynu isku xamanno ama goldoleeleh inagu dhexdeenna aynu ka ognahay dee inaynu meelo kale maaragtay aynu ula kala shir tagna maaha laakiin waa inaynu inaga dhexdeenna ku xalisano intaynu isqalan lahayn waxaa ila qiimo badan xogteennoon cidi qashayn cid kale loo qaadin eray intii qalin lagu maslaxo inaad qososhaan mar qura wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasaan kusoo gabagabaya kelmado qiimo weyn ayuu nagula hadlay ummadan usoo jeediyey waa muhiim inaan inagu waxaa naga xalisano inaan inagu isquursanin inaan inagu qabyaal isu isticmaalin inaan diinteena ku dhaqanno taasuna ay sinaantii iyo nafaris cadaaladii iyo walaalnimo oo inama almu'minuuna ikhwatu sheekh cabdiqaadir nagu waaninayay marka inaan saa u qaadano taasaan ku gaari karnaa tixdii meeshu ka lahaa qayrkaa lagu dartay qoor baa la noqdaa yani hadda soomaalidu dad bay daba fadhidaa weeye intay qabyaalada ku dhaqmaysana way daba fadhin doontaa marka siaad qoor u noqotid siaad kaalintaada u qaadatid inaad adigu waxaaga xalisatid adigu aad midnimadaada ka shaqaysida aada iyo aada muhiim hadda waxaan soo gaaray xilligii aan xasan ciisaan u dhiibi si uu toobikii maanta noogu soo jeediyo kadibna aan halkaas doodeena u furan bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin iyo dalladda inoo soo qabanqaabisay ba aad u mahadsan tihiin runtii anoo ka cudur daaranaya in waktigu aada inooga daahay dadkeenuna waktiga aada uma qiimeeyaan runtii waxaan u malaynayaa qofka bani aadamka marka la qiimeynaya waxa ugu qaalisan waa waktiga wey saacadda laylama ballamin sagaalkii bay ahayd markaynu hadda bilaabeynina 10kii xoogaa iyay noqotay marka dabcan 5 daqiiqo kaa habsaantay ama 2 daqiiqo kaa habsaantay waa 120 second wax yar ma waa aad bay u qiimo badan tahay haddaynu xagga hore ka bilaabi lahayn xagga dambe waxa laga yaabaa inaan nasiimo fara badan ka heli lahayn saa waxaynu ka hadli doonaa insha allahu khilaafaadka qabaa'ilka dhexdooda ka dhaca iyo qabaa'ilku waagi horesay wax u xalin jireen iyo siday hadda wax u xaliyaan
inaga oo aragtideenna islaamka iyo aragtidii hore ee soomaalida dhaqanka xeer soomaaliga qaarkood ayagana wax ka xusi doono tii islaamka sheekh cabdulqaadir baa hadda wax badan inoo sheegay waxaaba malaha murtidoo dhaniba kusoo urursan tahay laba magacoo wanaagsan oo qur-aanka lagu sheegay nimankii muhaajiriin iyo ansaar magacyo wanaagsan bay ahaayeen laakiin markii loo adeegsaday in wax lagu kiciyo labadoodii la isku diro wuxuu isku bedelay wax qurun isku bedelay wixii kale de ka sokeeyana markaa maxaa dee waxaad u malaynaysaa marka doodeen horta waxay ku saabsanaan doontaa sida hadda sheekh cabdulqaadir uu ka dhawaajiyey ma qabiilkii baa la siyaasadeeyey mise qabiilkaa wax siyaasadeynaya doodeena waa saasay u badnaan doontaa dabeedna waxaan isku dayi doonaa inaynu waxyaabaha xalka noqon kara aynu tilmaano mid caadi bay iska ahaydoo qabaa'ilkeena soomaalidu markii aan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada nidaamkeeda iyo magaalada loo soo guurinaya aanay maamulada dowladaha iyo xuduudda la samaystay aanay saameyn ku yeelanin ee qabaa'ilkeenu reer guuraaga iska ahaayeen ee marba meeshay daruurta ku da-do xoolahooga ay u foofsanayeen khilaafku wuu jiray laakiin khilaafkaa waqtiyada hore jiray ma jirin cid saameyn ku lahayd oo xagga dibadda ka imanaysay khilaafku wuxuu ahaa un qabaa'ilka dhexdeeda ama beesha dhexdeeda uu ka dhacayay ama beelo kale beesha iyo beel kale laba beeloodoo isku dhacay ama maxaan ku idhaahdaa dhowr beelood oo wax isku khilaafsan khilaafkuna wuxuu u bannaan jiray inta badan khayraadka waktigaa iyagu ay haystaan inta badan awood maaragtay kuma jirin meesha qabaa'ilku awood iskumay haysanin waqtiyadaas laakiin khayraad baa la isku haysanayay khayraadkaasna waxaa u badnaa daaqa iyo biyaha iyo xoolaha inta la isku khilaafsanaan jiray intaasay ahayd badanaana odayaal dhaqameedka waktigaa joogay si dhib yar bay u xallin jireen oo marka inkastoo wax qoran oo aada u muhiim oo xilliyada hore taariikhdeena aynu raad raaci karoo badan aanay jirin haddana dagaalo fara badan oo qabaa'il soomaaliyeed intay ku dagaalameen ay isku hoobteen oo isku dhammaadeen ama sanawaad socday waa laga yaabaa in dagaalka maalmaha u dhacay in dad badan ay ku dhintaan waa suuragal laakiin dagaalo sanawaad socday iska horimaad sanawaad socday ma dhici jirin marka odayaal dhaqameedku had iyo jeer waxay xallin jireen sida xeerka markaa meeshaa yaalla haddaanu xeer jirinna iyagaa xeerar bay ka abuuri jireen meeshaas oo ka samaysmi jiray hadda marka la yidhaahdo isku dhaca ama khilaafka qabaa'ilka ereyga isku dhac haddaan adeegsano wax kaloo keenaya khilaaf baan imika adeegsanaynaa dee laakiin isku dhac la yidhahdo waa marka dee khilaafkii uu sii sameeyey horumar sii sameeyey oo uu isku bedelay gacanka hadal baa isku dhac la odhan karaa marka laakiin waa khilaafkun hadda imika waxaynu ka hadlaynaa imika arrintu way ka adag tahay sidii hore oo waxaa ku lug leh khilaafkii beelaha dhexdooda ka dhacayay arrimo siyaasadeed baa ku jira kuwo dhaqaalaa ku jira kuwo dhaqanaa ku jira kuwo psychology-a ku jira ama kuwo nafsiga ku jira waa laga yaabaa inaad saddexda qodob ee hore siyaasadda iyo dhaqaaliya cultureka psychology siduu ugu jiraa la isweydiiyo waan arki doonaa insha allahu sida uu ugu jiro waxaa kaloo saameyn ku leh hadda maaragtay qabaa'ilka isku dhacooda dad kala duwan ama waxyaa qaybo kala ururo iyo hay-ado kaloo saameyn kuloo dibadda kaga imanaya beelihii oo aan beelihii dhexdooda ahayn baa saameyn ku yeelanaya kuwaas waxay keenayaan marka in khilaafkii uu noqdo mid adag noqdo oo qabaa'ilkii ay waxba kala garaysan waayaan uu noqdo inta badanna taasi waxay keentaa in khilaafku uu noqdo mid sii socda oo waxyaabo lagu saleeyo oo qolo waliba ay meel keento waxaanu khilaafka intiisa badan hadda ku wareegaya marka lasoo koobo awood qaybsiga iyo khayraadka awood qaybsigii marka waa arrimihii siyaasadda wey arrimihii siyaasadda sidee loo kala yeelanayaa oo beelihii soomaalidu u wada yeelanayaa sidayse u kala yeelanayaa geeljira geel wuu wada jiraa wuuna kala jirtaa maxay wada jir u yeelanayaan beelihii maxayse kala yeelanayaan oo marka qabiilkii
laga soo qaada meeshiisii ee la keeno in awooddii maamulkii iyo dhaqaalihii iyo khayraadkii baa lagu qaybsanayaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaa arrin adag ayay noqonaysaa. halkaa waxaa soo baxaya markaasoo imanaya inay jiraan beelo iyo kooxo la haybsooco inay jirayaan. beelihii soomaalida ka mid a oo cidina aanay diidi karin inay soomaalida ku jiraan, iyo kooxaha ayaan uga jeednaa markaa. kooxahaasi ani aragtidayda waa la igu khilaafi karaa, waana la igu waafaqi karaa. laba qolo un baan anugu arkaa, waa dumarka iyo dhalinyarada. dumarka iyo dhalinyarada marka qabiilkii wixii uu kala qaybsanayo la yidhaahdo aada wax ugagama daro. innaga qabiilka wixii uu qaybsanaya dad gooni ah unbaa badanaa ku shaqo taga oo la taga. de beelana iyaga waa la haybsoocayba, oo iyagoo beelaha reer hebel ee meel heblaayo yaalla ama meelshaas degan ama gobolkaa degmada ayagu waxay kaga jiraanba meelo maaragtay minora ayay kaga jiraan, ama lama tixgeliyaba. oo hadday joogaanna lama tiriyo, hadday maqan yihiinna lama tago. labada waa la isugu daray, iyadoo waxyaabo siyaasadeed, arrimo siyaasadeed iyo arrimo dhaqan intaba lagu salaynayo. marka arrinta noocaas oo kale, dadka noocaas oo kale ah, kooxahaas iyo beelahaas waxay u baahan yihiin halka aynu inagu xoogga ka saarayno beesha ee reer hebel maxay ku leeyihiin maamulka, ama reer hebel maxay halkaa ka yihiin, ama reer hebel ururka maxay kaga leeyihiin aan odhanayno in cadaaladda aynu ilaalino. xagga cadaaladda qabiilka laga ilaaliyo, cadaaladda bulshada cadaaladdeeda in la ilaaliyo. oo tusaale ahaan la sameeyo wax alla wixii dawladdu mashaariic horumarineed ay samaynayso, ama wixii ay shaqaaleyn ay samaynayso, bulshadu inay u sinaadaan. marka ama kuwii la haybsoocaya ha ku soo baxaan, ama dadkii oo isku jira ha ku soo baxaan. way yareyn kartaa dhibaatadii qabyaaladu ay lahayd bay arrintaas ayay yareyn kartaa. dawladda iyo maxaan ku idhaahdaa ururada siyaasaddaba waxaa looga baahan yahay arrintaa inay aada uga howlgalaan, oo sidii haybsooca kooxahaas iyo beelahaas haysta xididada loogu siibi lahaa, dadkaasi waxay mudan yihiin loo siin lahaa inay iska kaashadaan. marka dawladdiina waajib bay ku tahay, xisbiyadii siyaasaddana waajib bay ku tahay. oo hadday dawladdii ilowsan tahay de waa inay xisbiyadii xasuusiyaan. xisbiyadii hadday ilowsan yihiinna dawladda xaggeedi inay ka timaado. marka la kala qaybsanayo maxaa la yidhaahdaa awooddii in la yareeyo, dadkii in la haybsoocayay in la yareeyo oo laga eego. taas baa waajib ku ah inay maaragtay ay ururadii siyaasadda iyo xukuumaddiiba ay ka sameeyaan markaa dadaal ay ka galaan oo ay ka sameeyaan. waxay yidhaahdaan khilaafka dhaqanka ama isku dhaca dhaqanka, sida qolooyinkan arrimaha maaragtay xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada, aragtiyay dad kala duwan bay ka yeelan karaan. waa laga yaabaa aragtiyahaas inay meelo ay sax innaga inoogu noqdaan, meelana inagu khaldanaadaan. waxaa jira nin professor Johan Galton la yidhaahdo oo dadka aada arrinta xalinta khilaafaadka gaar ahaan qarnigii 20aad wixii weli inuu nool yahay adigu u malaynayaa, waayo dhawid horta wuu noolaa. waa dadka aada wax uga qoray buu ka mid yahay xalinta khilaafaadka. jaamacad ku yaalla Sweden ku yaalla oo xalinta khilaafaadka macadada ugu waaweyn adduunka lagu noqdana uu ku leeyahay. 4 arrimood baa isagu basic u ah aragtidiisa qabaa khilaafka waxa dhaliya, oo keeni kara markaa waxaa khilaafka taa ka dhashay inuu isku dhac keeni kara hadhow. 4 arrimood. 4ta arrimood waxaa kowka uu leeyahay baahida uu qofku u qabo inuu noolaado. isku dhac bay keeni kartaa. taa qofkani inuu noolaado rabaa, dhulkiisa iyo territory-ga uu joogo inuu ku noolaado rabaa, si xorana inuu ugu noolaado ayuu doonayaa. cid kalena way ka riixaysaa. taas waxay keeni kartaa markaa
isku dhac bay keeni kartaa bisi u qaba waxa kale oo uu isagu qabaa qodobka labaad nolosha bulshada meesha ku dhaqan hagaajinteeda in lagu kala duwan yahay inay keeni karto iyaduna khilaafka inay keeni karto haday dad loo xaqliyaa dhici karta dad in loo xaqliyaa dhici karta dadna laga tago ama la hilmaamo waxa kale oo keeni kara waxa la yiraahdo jiritaanka qofka ama identity-ga waxa la yiraahdo identity-ga inagu aanu waxa weeye Soomaali tusaale waxa laga yaabaa in marka nimanka buuraleyda wax la qaybsanayno oo wax la waxay inaan Soomaali ba la xasuusaninba marka halka kulka aad joogto maxaad ku dagaalamaysaa inaad Soomaali tahay xuquuq inaad leedahay waxaas iyo waxaynu dastuurku ku ogol yahay jiritaankii baad ku dagaalamaysaa markaa haddii kale dawaa lagu hilmaamo sida meelaha waxyaabo fara badan oo hataa intan imika isbedel ku dhacay waxyaabo fara badan oo la soo saaray waxa jira layna hilmaamay baa jira waan ku jirin salahaan imika waxa BB-du aad uga hadashay waxa la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa halgamadii dadka Itoobiyaanku ay u soo galeen isbedel in la sameeyo halgamada waxa la xusay kii Tigreeg soo galay waa la sheegay Tigreegna intaynaysa hayaanba waan ognahay kii Oromadana waa la sheegay kii Xabashidana waa la sheegay kii Soomaalida lama sheegay kii Soomaalida muxuu yahay markaa halgan ma ahayn miyaa dad doonaya xataa inay xorriyad qaataan ma ahayn miyaa ma dagaalkii 77 oo siyaad ciidamadii dawladda Soomaaliya soo gasho bas xagga hadii laga soo dhow warma WSRF baan lahayn oo waxaan lahayn ansaaru baan lahayn oo halgamadii kala badan baan lahayn maxaa loo xusi waayay kaliya iyadoo jabhad bal sheegin hadii la doono Soomaalidu halgan adag bay soo gashay dulmi fara badan baa ku dhacay inta in la yiraahdo marka identity-gaaga jiritaankiisu wuxuu keeni karaa hadii la ignore gareeyo isku dhac buu keeni karaa ama khilaaf buu keeni karaa waxa kale oo isna keeni kara ugu dambeyn sida Johan Galton uu qabo xorriyadda qofku u baahan yahay ama kooxdu ay u baahan tahay ama bulshada ay u baahan tahay bulshadu waxay dareemaysaa in la gumaysto xaqeedii in meel laga dhacay inaanay u madax banaanayn doonisteeda iyo waxa ay rabto waxay keeni kartaa taasina isku dhac bay keeni kartaa marka afarta arrimood wuxuu qabaa inay yihiin arrimo aasaasi oo keeni kara khilaaf isku dhac waliba keeni kara khilaaf kaliya kuma eegaanaysa arrintaas waxay keenaysaa buu leeyahay inuu gacan ka hadal isku bedelaba oo marka dambe uu noqdo mid la isku lagu dagaalamo hada khilaafka socodsiisu ama inuu khilaafku ahaado mid jiro oo sii socda waxa dhici karta inuu noqdo khilaafkii socday inuu xun yahay waa dhici karta inuu wanaagsan yahay waa dhici karta inuu wanaag leeyahay khilaaf waa dhici karta inuu xumaan leeyahay waa dhici karta marka dadku waxay isweydiin karaan war garanay xumaanta kuma anta khilaaf xumaan uu leeyahay wanaaga uu yeelan karaay maxay tahay walow xagga dambiya doodaheena baan aad ugu fahmi doono khilaafku wanaaga uu leeyahay waxa kamid ah imika inta dhowr iyo 30 qof aan meesha ku fadhinaaba suurtagal ma tirinin laakiin qiyaasaas aan baan malaynaya dhowr iyo 30 qof iskuma eegin walow Soomaalida features-kooda guud aan wadaagno muuqaalka guud ee Soomaalida waynu kala duwanahay fikradeennuna way kala duwan tahay haddaynu markaa noqono meel kaliya ama tusaale kaliya aynu noqono waxba inaga sii marka caadi mani waa inaynu wax aan ka hadlayno siyaabo kala duwan aynu u aragno cadaani waa inuu si u arko rooda waa inay si u aragto farxaan waa si uu u arko anigu waa inaan si u arko Cabdinuurna si u arko shan aragtiyood oo kala duwan marka aan bixino dadkii kalena waa inay haday tulixaad hayaan xataa ay ku soo daraan waa laga hadlay ka daawuno oran taas waxay keeni kartaa marka inaan dhinacyo badan intaan arrintii iska taagnay aan faa'iidadeedii iyo dhibaatadeeda aragnay taas waa khilaaf waxa la isku khilaafsan yahay faa'iidada uu leeyahay xumaanta uu leeyahay dayada tawaabataan wada joogno aynu isleenahay bal aan isla ogaan xumaanta iyadu waa sideeda xumaantuna waa hal qodob ma ku soo koobi waxa weeyaan kolka aynu wax isku khilaafno ee wax iskaga hornimaadno inaan saawan ku kala tagnaan isku khilaafnay waxaan isku khilaafno inaan ku kala tagno aynaan eegin maxaa haddaynu tan isku khilaafsanahay halka bay naga dhigayada tan oo caagadan iyada ma isku waafaqsanahay hawaan isku waafaqsanahay caagadan baan ka wada shaqeynaa
marka bulshooyin badan oo caalamka waxaa jira conflict khilaafkooda boqolkiiba 5 bay isku waafaqsan yihiin 95 way isku khilaafsan yihiin markay isku yimaadaan 5 ay isku waafaqsan yihiin bay wada qabtaan markay kala tagaana nin walba 95 kiisa kale iska wataa laakiin marka la isku yimaado adduunka waxa la tusaawun 5tii xabadood la isku waafaqsanaan baa la tusaa bulshooyina 95 bay iskaga mid yihiin isku waafaqsan yihiin 5na way isku diidan yihiin 5ta isku diidan yihiin bay bumbuuninayaan goor walba 5tan un bay wadayaan muhiim ah marka taa inaad sii wado khilaafka marka positive-kii waxa weeyaan inaynu eegno fursadaha jira xagga horumarka xagga wanaagga xagga waxqabadka khilaafkani muxuu inoo horseedayaa kolkaynu aragno khilaafkaasi haddii waxyaabo wanaaga inoo horseedayo ama ururadii jiritaankooda ha noqdaan ama kalsoonida lagu qabo ha noqdaan ama dawladdii jiritaankeedii ha noqoto ama kalsoonideedii ha noqoto khilaafkaasi hadduu nooca inoo horseedayo waa sax weeye markaa oo waxaan ka eegaynaa maxaa wanaaga oo inoogu soo kordhaya arrintan ayaynu ka eegaynaa waxaa wanaaga inoogu soo kordhaya dhinacyo kala duwan marka laga eego kolka uu khilaafku xun yahay waa sidaan hadda sheegayno waa wax yar ee la isku haysto in xoogga la saaro marka beelaheena Soomaalidu maxaa xoogga saareen hadda jeer wax yar ay isku khilaafsan yihiin laga yaabaa xataa beelihii markay abtirsadaan inay dushi isku yimaadaan xataa oo ay noqdaan qaraabo iyo walaalo inay noqdaan laakiin marka hoos loo sii kala jijibiyo hoos loo sii wado baa qolo waliba odhanaysaa reer hebel baa halka wada qaatay reer hebel baa halka wada qaatay korka Soomaalinimadiiba lagama eegayo waxa kale oo jira in wax khilaafka sii kordhinaya had iyo jeer oo arrinta in la manage kareeyo ama xaaladda gacanta lagu dhigo oo xaaladii la control wax meesha ka saaraya in xoogga la saaro oo waxa khilaafka sii horinayo in xoogga la saaro waxa kale oo iyadana maaragtay khilaafka inuu xumaantiisa kamid ah in adiga caalamka waxyaabaha ka khuseeya cid waliba caalamka meelun bay kaga taala cid meel cidla ku taala adduunka ma jirto inagu halka bariga Afrika aynu joogno baynu caalamka kaga naalaa caalamkii kalena isaga wada dhaganahay ganacsigeeni nolosheeni caafimaadkeeni xanuunka gobol yar oo aynaan weligeenba maqalo China ku yaalo oo la yiraahdo muxuu magaalada Hunoy waa anaga noo soo kala lahayd xanuunkii ka bilaabmay dhowr bilood kadib bishii December buu ka bilaabmay bishii February iyo bishii March adduunka oo dhan uu soo wada gaaray adduunka oo dhan bada isku socda marka adiga inaadan globally wax saameyn kugu leh caalam ahaan saameyn kugu leh aadan dareemin marka taas oo kale inaga kolka aynu eegno kolkaan inagu isku mashquulo waxay faa'iido u tahay qowmiyaadka kale faa'iido u tahay inagu marka dhexdeena isku mashquulo waa khilaaf negative mooyaane khilaafkeeni inaynu wanaajino in xagga wanaagsan ka eegno Soomaalida ma laha marka wuxuu saameyn wanaag u noqonayaa qowmiyaadkii kale ayuu u noqonayaa waxa kale oo khilaafkani dhibaato ku leeyahay inaan loo yeelin xilliyo loo yeelin warniyo arrinkaasi bal aynu waqti aan kaga baaraan degna aan samaysano ama guddi odayaasha reeraha ka kooban aanu sameeyno lama yiraahdo xilli looma sameeyo goortii la weeyay reer hebel waa ku sida waagi sameeyay la soo qaaday oo la oranay waxa kale oo khilaafku xumi sameeyaa in ay bataan tartamayaashu ama ururaha noqdaan ama xisbiyaha noqdaan ama qabaailan inay bataan oo dadkii isma qancin karayaan marka qofkan ujeedadiisa ururkan kama dhaxarkayo kana kama dhaxarkayo qof walba wuxuu rabaa keligii inuu isagu helo rabaa arrintii saas ma individual marka waxay noqonaysaa shakhsi bay noqonaysaa marka arrintii beeshii ba xitaa ka sii gudbaysaa qof bay iyay u gudbaysaa conflict noocaas kolka uu yahay waxa ka dhalan kara waa markan uu negative ka yahay uu maartay dhinaca xun laga eegayo waxa ka iman kara dhowr arrimood ayuu keeni karaa dhowrka arrimood waxa ka mid ah in cidi uun ay meelihii maxaan ku yiraahdaa kuraastii iyo awood qaybsigii iyo wixii oo dhanba cid kaliya inay wada qaadato ay gaar u yeelato ilaa wixii weyn intii lagu murmayay inay dad gaari
ay wixii iska qaataan waxaa kaloo iman karta qodobka saddexaad kale uu keeni karaa in dad meesha laga saaro oo ay ka baxaan meesha ka tagaan la ignore gareeyo waxaa kaloo dhici karta in aan maxaa la yidhahda wixii xalka noqon lahaa iyo xeerarkii iyo taana in la yareeyo oo ay soo bixi weydo maaragtay xeerarkii waxyaabo kale la barbar dhigo haddaba si khilaafaadka dhacaya loo yareeyo 5 qodob in la sameeyaa waa muhiim 5 qodob ama 5 arrimood in la qaataay waa muhiim si loo yareeyo khilaafaadka 5 arrimood mid waxa weeyaan inuu jiro isku tiirsanaan ka dhaxaysa dadkan khilaaf ka dhaxeeyo wax uun ay iskaga tiirsan yihiin waa isla ogol yihiin inuu jiro qodobka labaad inuu jiro wax la yiraahdo compromise kan ma ku bedelaa kan ma ku bedelan karaa oo kala yani wixii wax la barbar dhigan karo inuu jiro qodobka saddexaad waxyaabo la qaadan karo oo la isla meel dhigi karo qodobka saddexaad afraad inay jirto cid kantarooshay waxan hadii kuwa kala dil waayay inay jirto cid meeshii xakamayso oo kantarooshay ka u dambeeyana waxa weeyaan in la deelo arrintiiba ay noqoto markaa meel laga kala durkay oo laga kala fogaaday inay noqoto marka qodobadu meelo way ku wada haboonaan karaan meel saddex baa isku raaci kara labada qodob ee dambe badanaa lama taskiyo lama jecla inta badan leano kadii khilaafkii meesha uu hari waayo waxay noqonaysaa in la yiraahdo inagu isfahmi weyna ciidan taladeena u dhiibano cidda talada u dhiibatay say wax u qaybin doontaa markaa dhow ama in la yiraahdo de meeshiisba waafaqi weynay in kala ilaaliya xuduud aynu kala dhigano marka hadaynu mid walba isku yar dul taagno iskaashiga tan oo kale waxay keeni kartaa in dadkii meesha isku hayay labaduba ay guuleystaan say doonaan guushooda oo kala badato ciddii iskhilaafsanayd labaduba inay guuleystaan ayaa iman karta oo kana uu helo waxa suuragal in lagu heshiiyo markan adigu intaas qaado anna intaan aan qaadanaya marka dambe adiga anna intaas aan qaadanaya adna intaan kala aan qaadanaya oo de kan shan la siiyay kana saddex la siiyay sida isku waafaqeen oo yiraahdeen doorkana sida ku dhaafno doorka dambe kana inuu shanta qaato kana uu saddexda qaato way noqon kartaa labadiiba marka way guuleysteen bay noqonaysaa labadii qolaba way guuleysteen bay noqon kartaa tan oo kale waxay noqon kartaa midi inuu guuleysto oo guul yar u helo ka kalena uu u dhawaado inuu maaragtay waxyaabihii uu ku taamayay qaar kamid ah inuu lumiyo aanu wada helin ma wada helin labadii qoleys hayay midi waxbuu helay wixii ugu yaraa ee uu ku guuleysan lahaa buu helay iyo meesha ku qaatay kana wixiisii waxa kaga lumay istiraatiijig ahaan muxuu ku dadaalayay 5 sano kadib ama 10 sano kadib inuu helo waa meeshaas isagana kaga lumay taas marka inta badan waxay ka dhacdaa baa la yiri ururada dhexdooda iyo dadka ururada ku jira xubnaha ka dhexdooda ayay ka dhacdaa badana ee tan compromise-ku ay u badan tahay tan waxa weeye maxsuulkii ka dhashay wuxuu noqday waxaan lagu khasaaray buu noqon karaa midna istiraatiijig ahaan buu guuleystay labadii qoleys hayay hadda ma guusha hadda ma helin labadoodiba waxay taagan yihiin meel isku mid ay taagan yihiin laakiin labada midkood baa muddo kadib guushiisu ay weyn tahay oo si fiican ugu guuleysan doono wax uga heli doono qodobka afraad waa mid guuleystay iyo mid istiraatiijigiisa lumiyo tan waxay la odhanayaa markaa war cid kale oo meeshan kaantaroosha oo aynu isku aamini karro halaynoo helo cid kale aynu isku aamini karro halaynoo helo la odhanayo tan waa labadiiba way guul daraysteen labadiiba way lumeen labadiiba waxoodii way waayeen marka waxay u baahan tahay xiriirkoodiina saameyn bay ku yeelanaysaa oo hadhow siday dib isugu soo noqdaan ama dib isugu yimaadaan
way adkaan doontaa sawirka in la wada arkiyo in kale u malayn maayo ma la arkaya talo adugu xarfaha a b c say u qoran yihiin waa la arkaa soo ma halkaa waa a iyo b iyo c halkana waa a iyo b iyo c wasaa un saddexdaada hoos markaad u tidhaahdana dee mid walba middeedii unbu ku toosan yahay laakiin xagga kore marka aad eegto korka sare waxa weeye khilaafka si loo kantaroolo ama loo yareeyo khilaafku wuxuu leeyahay waxyaabo isku xidha oo khilaafka isku keenaya waxyaabaha khilaafka isku keenaya ayaa la kala jejebinayaa si khilaafkii loo kantaroolo oo loo yareeyo khilaafkan maxaa isku xidhaya arrintan dhacday maxaa isku xidhaya taa qabaa'ilka soomaalida oo kale ka soo qaad maxaa isku xidhaya qabaa'ilka soomaalidu inay iskhilaafaan ma halkii waagii horan baa la taagan yahay caws iyo un maya cawskii iyo biyihii un keliya lama taagni hadda waxaa la isku haystaa siyaasad baa la isku haystaayo nin kasta degmada iyo tuulada usoo korodhaa wuxuu leeyahay kursi iyo position yaad ku helaysaa ayuu leeyahay khilaafku markuu noocaas oo kale yahay halkeen ka darsaynaayo halkeen rabnaa inaan ka kala jebino hadduu khilaafkii is haysto marka bilow ilaa dhammaad is haysto waa mushkilad socotuu noqonayaa marka waxaan rabnaa inaan khilaafkii kala dhex gallo wuu jiraa dhexda laakiin waan ka banaynay xagga dambena wuu jiri doonaa markaa ma dhammaan laakiin dhexdanaan ka goynay isma haysto marka maxaa la sameynayaa tan waa waxyaabaha si dhiibli u jirayo waxaa la yidhahdaa saddexagalka a b c ee loo kala jebiyo khilaafka siduu u jirayaa khilaafka halkana waa dhaqan halkana waa wixii dabeecadda ahaa halkana waxa weeye siduu u dhisan yahay khilaafku qaabku u dhisan yahay ugu dambeynna waxa weeye maxaa laga sameeyey cilmi baadhis laga sameeyey cilmi baadhis maxaa laga sameeyey khilaafka noocaas oo kale maxaa cilmi baadhis ah oo laga hayaa marka had iyo jeer waxaa isku soo noqonaya tii maxaanku idhaahdaa dhaqanka khilaafkii dhaqanka ahaa wuxuu saameyn ku yeelanayaa dadka jiritaankoodii iyo dhaqankoodii ayuu saameyn ku yeelanayaa wuxuu u gudbi kii markaa inuu dabeecaddii bani aadamku lahaayeen dee ilaahay kolkuu qofka bani aadamkaa dhisay uu sameeyey structurekiisaas u sameeyey saameyn buu marka kiina yuu ku yeelanayaa dabeecaddii qofku lahaa haddana dhismihii wuxuu siduu u dhisan yahay ayuu saameyn ku yeelanayaa marka aakhirka waxay noqonaysaa haddii aan arrinta dhaqankeeda dhismaheeda dabeecaddeeda iyo aan khilaafku uu lahaa aan la kala waxaynin aan la kala saarin inta la fahmo aan la kala saarin wuxuu keeni karaa marka isku dhac buu keeni karaa inagu hadda marka qabaa'ilka soomaalida ma baabi'in karo qabiil maaha qabyaaladda ma baabi'in karo sheekh cabdulqaadir hadda markii dhaweyd aayad qur-aanana uu soo qaaday tusaale taariikhda islaam ka mid aan ana soo qaadanaya nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam bulshadii laga soo dhex saaray bulsho qabyaaladay ahayd oo qabiilku uu ka taagan yahay meesha ugu sarreysa ninna reerkiisa reerka kale ugama dhowaan karaynin even beesha dhexdeedu saasay isku ahayd oo odaygii abujahal oo isku beelay isku qureesh ahaayeen isna reer bani haashim buu nebigu ahaa kana reer bani makhzuum buu ahaa marka abujahal baa lagu yidhi nebi maxamed inuu run sheeg yahay oo aanu beenaale ahayn abujahlo waad garanaysaa maxaad u beeninaysaa wallahi waan ogahay waa run sheeg uu yahay buuri weligayna been kumaanan tijaabinin inuu hadalkan uu sheegayaa sax yahayna way dhici kartaa buuri laakiin waxaanan garaysan karaynin buuri reer bani haashim baa hoggaankii reerka xujaajta in la waraabiyo in la martisooro haddana nebi baa samada lagaga soo degaa reer bani haashim ka soo baxay taasaanan garaysanaynin buuri anugu taan baan iga dhaadhacayn odaygu qabyaalad baa dhaqaajisay hadda waa isku qurays moogtahay meel baashi sii dhaadhacda haddaba nebi maxamed qabyaaladii nuuca ahayd wuxuu sameeyey ma baabi'inin wuu jiheeyey suldaanka beesha beel kasta oo markii maka la furtay kadib ay dadka iyagoo qabaa'ila kusoo biirayeen waagii maka intiin la furanin ka hor waxay ahayd uun dhowr qof oo wada socda ama qof keligii socdaa islaamka soo gelaya laakiin maka markii la furtay wixii ka dambeeyey 3 sano ka dambeysay
dadku waxay imanayeen beelo dhan oo socota oo macal suldaankeedii ama boqorkeedii ugaaskeedii la socda imanaya ma odhanaynin islaam baad qaadateen oo annaga idin hogaaminayno oo aniga rasuulkii iyo madaxweynihii meesha ugu sarreeyay suldaankiina halkaas lagu casilay suldaanku sidiisaas uu hogaaminayay kolka dagaal xataa la tagayo waxa la reer hebel oo ciidankiin intaasoo ciidan la idinka rabaa intaasoo fardoolay la idinka rabaa intaasoo qalab la idinka rabaa reer walba way imanayeen xataa kolkii maka la furanay odayga Abu Sufyaan waa kii duleedka maka oo Abbas bin Abdul Muttalib joojiyo nabigu ku yiri tus dadka soo socda kuwan yahay waa reer Museyna kuwan yahay reer Salim kuwan yahay reer Ghifaar kuwan oo qabaa'ilkan oo dhan maxay naga doonayaan bula waa qabaa'ilkii wada islaam u socda marka inana waxa inala jirta ururadeena siyaasadeed iyo waxgaradkeenaba qabaa'ilkeena Soomaalida inaan jihayno oo aan xagga wanaagsan iyo horumarka aan u jihayno meel ay ku fiican yihiin baa jira oo iskaashadaan oo ay wax ka qabtaan taa in la xoojiyo meelaha ay ku xun yihiin ee ay isku haystaan ay isku dilayaan ay isku xaynayaan in la yareeyo haddii dawladdu marka ay dadka khayraadka u qaybinayso ama jagooyinka ay u qaybinayso tira waa loo tartamaya jagadaas cid la cid ku soo baxdayna xaq bay u leedahay anagu qofna uma eegayno madaxweynaha adeerkii ama walaalkii hadduu doonaha ku soo baxo sida un haddii loogu tartamo oo aan la oranin sidii hadda mar dhaweyd Haashim iyo wada sheekaysanayeen Musaabqa Cabdinuur Buha inta Cabdinuur Buha wuxuu yiri intii aan nin baa yiri buuri intii aan jaamacadda 5 sano ku maqnaa waxa ay dhaami lahayd buuri inaan 5 oday oo reerkayga bartay buuri maxaa dhacayo jaamacaddii aan 5 sano ku maqnaa waxba dishaadadii qoon weeyo odayadii reerkayguna kuwii kale uun bay kaxaynayaan oo wuxuu yiri geynayaan kolba meesha uu maaragtay isagu doonaya ay geynayaan buuri marka halkaas ay naga noqon lahayd waa inaynu yaraynaa oo aynu aqoonta iyo khibradda iyo waayo aragnimada qofku leeyahay aan ku qiimeynaa oo aynaan ku qiimeynin reer hebel imisa haystaan iyo reer hebel imisa haysanin taasina dhici maysa uuna samada ka iman mayse waxay u baahan tahay mas'uuliyiin ku dhiirada u baahan tahay oo maalin uun bilaaba maalin uun bilowgeeda keena ururadu saas oo kale inay sameeyaan oo istaraabi karaan oo ay garan karaan oo marka qabaa'ilka Soomaalida eegaan qabaa'il ba qaar kood ka maqan dumarkii baa ku yar dhalinyartii baa ku yar iyagii inay laftoodii iyaguna keenaan oo maaragtay yiraahdo wallahi dadkaas way nagu yariyeen meeshaasina hadda berri waa inaga guuleysan doonaa dadka aynu maaragtay ururkeena iyo fikradeena aynu ku qancino cid waliba markay miisaanka noocaas oo kala saarto wixii waa la yareyn karaa waa la kantarooli karaa khilaafaadkeena way yaraanayaan berri in kaas reer hebel uu helo kana uu waayana waxa loo arki doonaa wax iska caadi ah oo lagu tartamo tartankana maalinba cid ay helaysaa loo arki doonaa marka taas oo kale inaynu xooga saar fiican ku soo dhawaada doodana way noo furantaan malaynaya aad iyo aad baan mahadsantahay Ciise runtii wax badan baa ka soo hadashay meelaha qaarkood haddii la isla fahmi waayo luuqadii aad ku hadlaysay ama aad ku barashanti garaynaysay doodaa qeexi doonto dib male marka waxaan jeclaan lahayn marka hadda saakoo dhan baan joognay inaan shaahayno 15 daqiiqo oo nagu filan tahay kooxaheeda kale ka soo qayb galayna marka hore hal qof baan siinaynaa ayagana markay urur ka baxaan marka aan saas inaan u bilaabno ka warramo gentleman and ladies agreement inaan ku heshiino aad waa mahadsantiin doodu ma aha ururka iyo qolo gaar iyo wax ka gaar iyo maamul gaar iyo ma jirto xagga hawla anina adigu urur ahaan qabyaaladda waad aragtaa waad fahamsan tahay ka mid baa tahay haddana bulshada baad hogaaminteeda rabtaa oo u taagan tahay waa salaamantiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha magacayga waa Roble Ugaas Abdigaas bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan leeyahay maadaama aan cod ka helay nasiib u yeeshay inaan ku horeeyo aan isleeyahay annaga markaan isdhaxno reerkanaga dadka qabyaalada taabatay aan ka mid nahay marka waxyaabahan waxaan kaga gudbi karnaa baan isleenahay urur ahaan qabiilkaas iyo qabyaalada iyo waxyaabaha nala haray aan kaga gudbi karnaa in aan iska dayno wax walba oo si gaar ah ama shakhsiyaad u taaban karo oo
reerkan intaan wax wanaagsan siino reerkan aan yar dhahno kuwan way yar yihiin intooda bal ayar ha loo yarkaadiyo oo si sinaan ah aan u isticmaalno waxyaabo walba oo danaha bulshada ah ama u soo baxo oo loo eego oon loo eegin ree hebel ama hebel baa kaa ah aan iska dhaafno aan u aragno markaasi yaana anfici kara wadadeen uga bixi karnaa intaan ka wada hadallo ka wada tashano hal qodob oo markaasi aan leenahay kanaana bixinaya inaan wadada ugu wanaagsan oon kaga baxayno aan aadno waxaa ka mid ah waxyaabahaasi waxa keeni karo sida markaasi qabiilka qabyaaladda waxyaabaha kale oo aan leenahay markaasi qabiilada kale oo deegaanka jira waan ka gudbi karnaa aan ani isleeyahay waxaa ka mid ah inaan helno cadaaladda saxda ah oo tooska ah wadada loogu talagalay in wadamada hormaray ama deegaanada hormara ay qaadeen inaan qaadno oo shaksi walba oo etoobiyaan ah ama deegaanka joogo waxa uu xaqa u leeyahay oo saxda ah uu helo mahadsanti hadda waxaan u yeelayaa diilooyi ururka diilooyi بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdikariim wacdi ahna guddoomiyaha ururka diilooyi intaa haddii ka gudbo dhibaatada qabyaaladda ay leedahay maanta qof waliba oo Soomaali ah looma sheegayo waxaad mudaa aqal min guri in mataqaana qabyaaladda ay joogto taa iidee marka waa laga bixi karaa haddii daacad la noqdo daacadnimada waa in iyada naftirkeed juhdi badan la geliyo sidii daacad loo noqon lahaa iyada naftirkeeda u baahan in juhdi badan la geliyo haddii maalin walbo la yidhaaho qabyaaladda inaan ka baxnaan la rabaa aanan loo soconin dhankeedii dhibaatadeeda ay leedahay aragtidayda aniga qabyaaladda waa laga bixi karaa waa haddii marka hore la xusuusto dadka in marka hore inuu ka soo jeedo faraca doodka nabi aadam xaawiye aadan in laga soo jeedo marka hore haddii la xusuusto oo hal farac la yahay haddii la xusuusto waa laga bixi karaa laakiin haddii ay joogto anaa reer hebel iyo adaa reer hebel meeshan aniga shaah ka cabo maad adiga biyo ka cabi kartaa haddii ay tahay lagama baxayo taa markay ka gudbo ururada siyaasadda urur kastaba waxa u yaalla ajende ama waxeer hoosaad annaga qaabkanaga waa qaab ku salaysan bilaa qabyaalad wax qabyaalad oo ku jirto ma jirto saan u arko saa magaca annagaa muujinayaba diilooyi calaamaddanada waa calaamad wax soo saar dadkao dhan baa inuu siman tahay haddii aan nahay Soomaali waxay ila tahay kow haddii la yidhaaho laba qabyaalada nuga ah Soomaaliya qabyaaladda waan ka bixi karnaa qabyaaladda aan ka baxno waa haddii aan daacadiisu noqono hore waan u sheegay daacadnimo haddii ay timaado qabyaaladda waa laga baxayaa haddaba qabyaaladda qaabka looga baxaya waa maxay marka waa in marka hore adiga asinta wiilka iyo gabadha adiga aad dhashay marka hore waa inaad adiga asinta weeyaan gabadha iyo wiilka inaad kala jeclaato ma aha wiilkana qaymaad u yeesho gabadhana qaymaad u yeesho inaad dhashay labadooda waa in mataqaana ay ku siman yihiin saamiga gabadha ay leedahay waa inuu wiilka yeeshaa wiilka saamigu uu leeyahay gabadha waa inay yeelataa waa aasaaska qabyaaladda habka laga baxayo waa aragtida aan qabo ururkayga aniga talagalkiisa wuxuu yahay in qabyaaladda aan ku tirtiro marka hore waan sheegaan u malaynaa calaamadiisa ah calaamad wax soo saar
saa awgeed anu ururkayga waxaan ugu talagalsanahay in mataqaanaa qabyaalada aan ku tirtiro dhammaan markii xagga horumarka markii loo wada kaco in saamigooda mataqaanaa aan simo in saamiga qabiilada aan simo waayo in aan beerta u kala qaado dhulka lusku haysto ee nafciga aan u kala qaado in mataqaanaa daaqal lusku haysto aan u kala qaado in mataqaanaa haba yaraatee kan haddii badilka qaada kana yaambada uu qaadayo nidaamka aan ugu talagalsanahay maadaama ururkayga calaamadiisa uu yahay calaamad wax soo saar saas awgeedaan rabaa in qabyaalada ku baabiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinuur macali xasan waxaan ahay on ka socdaa ururka ama xisbiga FEB ama sinaanta iyo xorriyadda waxaan rabaa horta marka hore inaan qeexno qabyaalad intaas rabaa inaan ku biiriyo wixii aragtidayda waa qab iyo ya ama waa qab iyo yeelid ama ya qab iyo yo waa dhib uun wixii intuu kaa dhaco haddana kugu dhacood marka dambe xusuusato xanuunada keena annagu waxaan u aaminsannahay inay yihiin kow jahli ruuxba ruuxuu kaa jaahilsan yahay unbaa qabyaalada la imaada waa kow labo waa xaasidnimo dabeecadaha keena qabyaalada waxaa ka mid a xaasidnimo walaalkaa oo dheragsan inaad tiraado loogu sii darto nin wax haystaa wax loogu daraa kii miskiinkaa ee baahnaano meelaha iska jiifo taasna marka waa xaasidnimo waxaa kaloo keeni karta bakhaylnimo inaad dadka wax u quuri weydo oo wixii baad ku soo dhaafi weydo oo isku celceshato taasna waa xaasidnimo waxaa keeni kara dulmiga ayaa keeni kara waa waxyaabaha keenahaya ee sababhaya in la helo qabyaalad waxaa kaloo keeni kara bartii aqoonnimo in yaroo qoys iyo in yaroo reer iyo in yaro ehli in yaroo family oo ka dhashay iyo haddii kaloo ay gaadhi wada Soomaali in yaroo deegaanka Soomaaliya umbuu yaqaanaaba marka xataa human being iyo ixtiraamka bini aadamka inuu garan waayo ayaa suuragal ah marka bartii aqoonnimaduna waa xanuunada keena qabyaalada waxaa kaloo keeni kara oo sababi kara in qabyaalad la helo baahida ama buufartiga waxa la yiraahdo mar walba baahidu badan tahay uu dhibku badan yahay uu rafaadku badan yahay oo imaan kara qabyaaladu waa imaan waxaa kaloo keeni kara xaqdiidnimo ruux hadduu xaqdiid yahay iyadoo laga garhayo indhaha iska qabto way imaanaysaa qabyaaladu way imaanaysaa xaqdiidnimada aayado quraan la akhriyay xadiis baa la akhriyay nin aan aqoonin ma jiro nin aan aqoonin iska daaya way orisaa ma jiro saa darteed wax way kitaab Allah ku akhrisan mahaya ka adag waxaad akhriis ku qoran waad iska diidi marka dambe waxaa keeni kara maxaan ku wax qabad la'aan ma doonaysid inaad wax qabatid maadaama uu aad qabyaaladii iyo qashin iyo wax uu ku wareegaysanaysid inaad wax qabatid ma doonaysid waxaa kaloo keeni karta maxaan ku dhahdaaye waayo aragnimo la'aan dunida lama arag cid qabyaalad wax ku noqoto saa darteed maadaama waayo aragnimadu ruuxaas ay ku yartahay way ka suurowdaa inuu qabyaalo la imaado waxyaabahaas iyo waxyaabo ka sii badanba waa cudurrada keena markaan ka gudubno oon yidhaahno maxaa xal u ah waxaa xal u ah nidaamka jira ee dadka maamula ayaa mas-uul ka ah in qabyaalada la yareeyo hadday tahay hoggaan dhaqameed hadday tahay culamaa u diin hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin maxaan ku dhahdaa ururada rayadka in la yareeyo waa waxyaabaha lagu yareyn karo waxaa ka mid a in bulshadii lagu wacyigeliyo sida xunuunada adag ee dadlayska ee baabi'iya ummadda sidaasoo kale in loogu wacyigeliyo oo dumarkii lagu wacyigeliyo oo odayaashii lagu wacyigeliyo oo aqoonyahaankii oo cid walbaba ay taabato dhibkeeda leanno waan aragnay iminka AIDS-ka waa iyo muxuu baalkii COVID-19 waa laga wacyigeliyay sooma farahan waa laga dhaqday tama sidoo kale in loola dhaqmay u baahan tahay saddex waxay u baahan tahay oo lagu yareyn karaa waa si guud markaan u hadlahayo inay dadku isugu imaadaan fagaarayaal oo laga tashado waxay noo gashay iyo waxay naga goysay intaan markaan kasoo gudubno ururka iyagan ama xisbiga iyagan oo ma dhisna qaab iyo nidaam iyo way uu qabyaalad ku imaan karo shirka kan ka horeeyay ee kii afraad inuu aan u malayn ayaan ku sheegnay waxaan yidhi wadadan magaalada jigjiga marta weyna xaggaa buu socnaa kuna xaggaa buu socdaa xaggaa ruux u socdaa annagu farag shaqo kuma lihin waad fahanteen baan u malayn wadadan magaalada jigjiga dhex marta xaggaas baabuur baa u qaada soo ma qaarna xaggaa bay u socdaan xaggaa wax u socda ruuxuu dooni ma taabanayno waxay ka dhiganta ruux Soomaaliya
hadduu maamulka yahay iyo hadduu urur yahay ba annaga wax dhiba naga soo gaari maayo waa qodob meeshuu wax naga jira inaan aadno waa waxyaabaha lagu yarayn karo qabyaaladda tusaale qabale bay reerkeenna isku laynayaan iyo tolkeen qabalaha maxaa yaalla maxaa dheefoo taalla biyo ma laha baad ma laha aqoon ma taalla oro wax yaalla ma jiro khayraadkoodina meeshuu jiray ma garanin taasi waa qodobo inaan soomaalida oo dhan intaan organize garayno xagga usii qaadno meesha uu wax jiro aan u doonno waa qodobka koowaad oo aan qabyaaladda annagoo ugu talagalnay inaan ku burburino oo wax soomaalinimo ka hooseeya hadduu reer yahay iyo hadduu midab yahay hadday luqad tahay iyo hadday kaaljar tahayba wuu naga nabadgeli labo waxaa lagu yarayn karaa dadkii in loo abaabulo si dowladnimo ee aan loo abaabulin si reernimo aan loo abaabulin shaksiyadda gaarka waad aragteen ninka siyaasiga intuu reerka saa u jiifiyu bridge ka dhigtaa laba kaabad buu ka dhigtaa hadhow toolana markuu kaabada daniisa ku gaadho shacabkii gacmuhu usha kaga dhuftaa way dhacaan marka meesha laga eriyo udhi haddana reerka annagayo waa la eriyey maxay ku qabeen barnaamijka noocaasa intaa la daayay in dadka loo alooso loo abaabulo si dowladnimo oo deetana ay noqoto in laysla xisaabtamo war annagu ku dooran mayna dad wax loo tarinin haddii kale ay noqoto markii la keenana ii allaasa markaan inaga tagana dib dambe inagu imaan mahayana ma rabno reer ahaanna wax lagu qiimeeya ma rabna waxaan rabnaa inaan idhaahno jigjigaay dadkiina beteli laha soo dooro oon qabiil ahayn oon reer ahayn oon guruub ahayn oon cidna ahayn oo shacabka loo bandhigo waxaa kaloo lagu yarayn karaa in dimuqraadiyad la curiyo dimuqraadiyadda waxaa weeyaan in dadka halkaa sanduuq lasoo dhigo la yidhaahdo hebel iyo hebel oo tartama cod ay lagu kala baxo laakiin aan nina hoosta habeenkii lasoo gashanin habeenkiina aan la gurguurin waxaa kaloo annagu aan ugu talagalsanay inaan ku yarayno wax retired la yidhaha ma jiro retired wax la yidhaha ma jiro odaygii 10 sano soo joogay iyo siyaasigii 30 sano soo joogay baa sii taagan arrintaasi waxa weeyaan waxyaabaha keenaya qabyaaladda dadkii aqoonta lahaa away dadkii wax bartay away waa in Chinese-ka la isa siiyo oo kolbaba group lagu dayo oo team lagu dayo oo dad lagu dayo oo la dhaho waxa weeyaan tusaale ahaan qandaraaska wada aragteen dhibaatooyinka ka jira ninkii 40 sano intii kilalka la abuuray dadkii qaadan jiray u baqato maxay ku dhacday muuna qabyaaladayn iyadu qabyaalad maynahay waxaa kamid ah waxyaabaha lagu yarayn karo inagoo u talagalsannahay madax xafiisyada wasiirada inayna noqonin mulkiilayaal arrintaas inaad fahanteen baan u malay BB-na inay joogto waan jeclaan lahay madax xafiiseedku wuxuu ka dhigayaa xafiiska ummadda uu ugu adeegayaa gurigiisuu ka dhigayaa waa inuu shacab u adeegaa dadka waa in ay sinaadaan waa in la helo equality kama dhigno haddaan laba caagus iyo laba caagaysi laakiin baahidii aan lahaa waa inaad ii gudi karto xilligaa doontana waa inaad xafiiska furan karin shacabkuna waa inay kula xisaabtamaan ugu dambeyntii barnaamijkan la yidhaahdo qabyaaladda Soomaali wuu ragaadiyay qaybkeedna uu ka reebay dadnimadeedina way dhimatay haddii laakiin afka laga sheego oo mas'uulka ayna ka go'nayn oo ina xildhibaankii ka go'nayn oo ina odaygii ka go'nayn oo ina aqoon-yahankii ka go'nayn oo cidnaba ka go'nayn cidina ma keeni karta laakiin waxaan u baahanahay commitment baan u baahanahay iyo si dhab ah iyo in axsaabta halkaa inta la soo dhigo oo halkaa la soo istaajiyo la yidhaahdo yaa wax noo tari ee aan la dhihin hebel baa gaari wati iyo hebel baa guri cad degan iyo hebel baa maxaa la yidhaahdaa yaa waxaas ah inaan la dhihin la dhaho war yaa wax noo tari taa un baa lagaga gudbi karaa tusaale ahaan Maraykanka wada aragteen sheekh baa wuxuu lahaa maalin dhaweytoole Soomaalidu meel fiican bay gaadho gabadheena baa taram la tartamaysaa gabadheena baa taram la tartami waayo xisbigu uu u keeni lahay arrintaas gabadh yar ilaahay la yiraahdo yes or no bay la soo taaganta waxa ka jirta qabyaaladu way ka jirtaa oo dad cad mooy dadka lama soo baxo laakiin dadka waxba la tusaa hatta nidaamkeena oo ma yaalo inuu dadka wax tusaa ta kale marka guri qoyri dheew baa la iskaga hayaa waa la iscadaadiyaa waa la iscaayaa arrinta in laga soo gudbo oo la bislaado oo la waayo arko oo wixii aan hadda ka hor ka soo gaabinay hadda kabno ayaan diyaar u nahay wad mahadsantiin aad baa mahadsantahay Soomaalidu waxay ahayn 100 sano 50 sano xataa magacyadoodu way isbedeli jireen abtirkoodu way isbedeli jireen saxayskoodu way isbedeli jireen intii gumaysi reer Yurub yimid ba waxa qabiilka laga dhigay duweylaad status oo isku duula haddaad u fiirto Soomaalida is dhacaysay isu gabiyeysay is caayeysay is faaninaysay waa intii isticmaalku joogay
1850 ka soo bilow wixii ka dambeeyay Soomaalida duweylaad kala go'an oo kala qabiil ah baa laga dhaadhiciyay dawlado xuduud leh sidaana ma ahaan jirin marka kan isticmaalkii la socday halgankii gobonimo doonka waxoogaa yar jilciyay marka shisheeyaha aragtana Soomaalidu way soo dhawaataa qolo kasta markii cadaas dusha kaga yimaado way laawan wixii daaqiliga marka halgan gobonimo doonku si fiican buu maartay iyo u jilciyay qabyaalada iyo wadaniyada Soomaalida kor u qaaday qabyaalada haddana dawladda nooleysay dawladda Soomaalida qabaa'il hadda u fiirso qabaa'ilka Soomaalida way kala daateen kulligood waagi hore isbahaysiye waaweyn oo isdifaaca oo isku hoos nool oo iskaashaday ahayn markay dawladnimada timid xorriyadda iyo amniga iyo way bateen marka qabiil u baahan wuu yaraaday isaguna isbahayshada iyadana meeshay ka baxday waagi hore ummado kale isku soo duuli jiray xuduudaha la iska riixi jiray gaalooyin baa xeebaha la qabsan jiray Abasiiniyanka inuu soo duuli jiray inaga iyo qolyahan deriskeena food isdiri jiray dagaalo waaweyn oo Soomaalida wada gashaa dhici jiray kuwa dhamaanteen meesha ka baxeen dawladdu iyo xaafadii dib ugu soo noqday xaafadiina way kala furfuratay evolution hadda qabiilku ha kala furfurmay wuu sii dhimanaya Soomaa kii duweylaadka ahaa ee weynaa ee reer hebelka ahaa wuu isaga naftiisa uu kala furfurmay in laga hadlo danihii siyaasi halaba siyaasi baa isku reer ka soo baxaysa iyagii baa ishardeeyay marka qabyaaladii way noqon wada nafteedu wax meel ku eg oo la caabudo oo halka ku adkaan kara ma haddana evolution bay ku jirtaa wadada ay ku dhiman lahayn bay qabyaaladu haysaa wadadii geerideeda qabyaaladu hadda sanadan haysaa waa hubaal weyn sababtu waxay ka jawaabi laadahay baahida aqoonta way ka jawaabi laadahay dhakhtarkaan u baahanahay way ka jawaabi laadahay shaqadaan u baahanahay way ka jawaabi laadahay dhaqaalahan u baahanahay way ka jawaabi laadahay su'aalaha u yaala noolaha Soomaaliga ee maanta jooga qabyaaladu ka wada jawaabayso inay qeyro intee geliso islowsiyo cirka geyso oo maartay debrisa mooyaan maxaa kale qabyaaladeenu leedahay halka ceebe anigu fiirsaday leedahay adduunka ba halka been badan ma inaar weliga qabiil riboodu ku siiha qaadan qabiil laba qabiil oo meel isku haysta balu tag sheekhooda iyo ugaaskooda iyo caalimkooda wax run ku hadli male dad intay dilaan bay qarinayaan meesha ay ogyihiin yani arrin ay kalimatu sharaf ma laha qowl sharaf waxa anaga beenay waxaan waana looga xaq leeyahay hebel waan ka gardaranahay hebel wuu naga mudan yahay weliga ka maqlimayso iyadoo baa laga gardaran yahay iyadoo baa dadka ka fiican iyadoo baa muxuu ahay la dulmay iyadoo baa dul qaadata iyadoo baa nabadda doonaysa dhanka kale diidahaya negative oo dhanna waa dhinaca kale positive oo dhan waa xagiisu bal u fiirsa qabyaalada intaad baashi qaad waxaan isku macallin baa u yeedhiyay darafka haddaad report ka qorto oo darafka u sheegay oo isku soo waday ceebtaana way asaamaha way qabyaalada weliga ay isu dhageysan dadka laba qabiil oo haysta intaad qolo tay ku kasbato oo si fiican hadalada isugu tootoos hamoodina inay runtaan marxal casrigan aan joogno maxaa wax ka qaban kara qabyaalada dawlad siisan dawlad wax ka qaban karay qofku wuxuu baahan yahay nabadgelyo iyo dhaqaale soo maaha labada ayaa wax ka qaban kara in hantidiisa iyo jirkiisu nabad galaan u baahan yahay inuu noolaadana u baahan yahay oo waxbarasho helo oo shaqo helo oo uu hooy helo oo nolol helo soo maaha arrintaa system dawladeed baa wax ka qaban kara dadkan Soomaalida hadda waxa madaxa isu sii geliyay ceebta faraha u geliyay waa fiqriga iyo gaajadooda anu waxaan soo gaaray iyadoo ninka dilaalka aan maqraati la gashan soo maaha oo gabdhaha la siiyay waa dilaal baa laga been ku dhaartay gabdhaha naga siinay leeyahay waxaan imid 92 baan waddankeena ku soo noqday saylad baan tagay magaalo weyn iyadoo la isbuureynayaan tagay maxaa la isku dilay neefkii reerkan ay ka soo dhaadhacay u gaday mid kale ku dilay dadkan dhaqaalihii iyo deegaankii iyo tiradina way badatay resource-kiina wuu yaraaday markaas hadda maxaa degmooyinka la isugu laayaan gumaysiga Itoobiya wuxuu noo galay mahmaadii ahayd aygaaga kolkaad gaajayso inuu ku jeclaadaa degmadaas
degmada afarta xafiis ee ka jirto ma wax shaqaa taalla shirkad private ma jiro company loo shaqeeyo ma jiro warshad loo shaqeeyo ma jiro afarta 11 xafiis ee degmada ku yaala dadka oo dhan way gaajaysan yihiin ma dadka rid dilaalkeed isku dilay waxaad malaas rid dilaalkeed bal isku dilaya marka dadkii ka yaqiiqsan jiray ninkaasi dawladdu u shaqeeyaa baa la dhihi jiray mushaar buu qaataa waa la ceebay waa laga hadda waxaa la isku leenayaa madax xafiiseedka see reeraha annaga oo qadeen marka mushkiladda aasaaskeedu waa fiqri wey isjirdiididda maaha anigu waxaan soo gaaray iyadoo makhaayadda intaan makhaayad galay baan hooyaday maalin i buriso maxaad makhaayad waxooga cunaysa soo ceeb maa intaan makhaayad fadhi dadka fiiq ka hor tidhaahdo daraad eeg dilaalna ceeb bay ahayd eegana waa la isku dili ri iyo lax baa la isku dilaya marka mushkiladda meesha ay taallo aan aragno dawladdu maxay dhaqaalaha iyada jeebka ugu ridatay keligiis maxay dadkan maxay u empower garoobi lahaayeen oo shirkado iyo warshado iyo beero iyo meelo loo shaqeeyo dawladda ka shaqaalo badan maxaan u heli laana dee hadduu kaa kaaftoomo eygaa uu kuuma imaanayso moogi haddaad rabto inuu saynta waraariyo ku ag wareego ha gaajaysnaado hadduusan dherga kuuyan maayo etoobiya siday noola dhaqantay waxaa weeyaan jawic kalbeg iyo tabacak gaaje ayaga si uu kuu daba socdo maxaa inaga afarta degmi iyo dawladda sakaraadka ee baashan labada gaadhi ee sakaraadka wato maxay dadka Soomaalida ugu wareegaysanayaan way faramaray fiqri baana loo diyaariyay marka kolba adisaba si eeg dawladda la dirrimayna shilimadii bay haysaa dawladda la rasiqi bay haysaa dawladda ma sixi karayada wixii oo dhan haysa dadkan waxaa qabyaalada lagu diray social in dhaqaalahooda la hormari in la abuuro dhaqaalo barayfada oo dadku ku kala mashquulo oo qasnada degmada iyo ta gobolka iyo ta kililka ee la kor tuban yahay waa siyaasad social economic taasina araxda ka jabta weey number 1 macada ya Dr. Soyan dadweynuhu waa inay ka taajirsanaadaan dawladda soo sax ma siday dunidu tahay waa inay shirkado Soomaali oo 1000 2000 10,000 u shaqeyn kartaan soo saar weey why not maxaa shil maanta halkan u haysanaa oo systemka iyo bangiyada iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo maxaa dadka looga xanibaya why te hadaan diragno abasiiriya ku xidhnaan mayna miya magaajada lagu xidhnaanayna walaana gaajo ugu xidhnaanay marka runta la isu sheego Ethiopia gaajayntu qori makeen intaan isha ka galino iyo iska celin marka dadkan hadaa la rabo inay dhirgaan oo seexdaan oo iyaguna kala nabad galaan lagana nabad galo risiqa laga awday ha loo sii daayo soo sax ma waa qodobka labaad qofku wuxuu u baahan yahay qof talent leh baa jira siyaasi ah fanaana meel uu ka heesay haduu ay muxuu sameyn reeraha dariskiisu u gabiyo mogta caay TV haduu TV waa naga maxaa isku mashquuliyay fanaaniinta Soomaaliya abwaaniinta Soomaalida TV uu yimaado oo ka hadlo waay siyaasiga haduu xisbi uu ka dhax doobiyo haduu waay ka warasagana reerku uu ku jiro kala dhanka u dhax qaaday Soomaa waa siyaasi waa inuu helo xisbiyo uu ka dhex doobiyo oo muxuu ahaay qumaati mawhibadiisa u soo bandhigi karo soo saas ma oo doorashada guulaysan ana doorashada sanadkan soo qaaday Soomaalina sadeeriya baan uga soo riday Ethiopia haddii ka soo riday waana ka tagi soo saayna yiraahdo siyaasigan waa inuu fagaaro xisbi ah oo ideolojiyad iyo fikrad ku dhisan waa inuu yimaado kullu lacag lagu doonayo ama shaxaad lagu doonayo inuu noqdo ma waa inuu noqdo xisbi doonaya ama dhaqaalaha inuu wax ka bedelo ama dhaqaalaha inuu wax ka bedelo ama siyaasadda wax ka bedelo ummadaas laakiin ruux kursiga waan ku fadhiisan karaa taxaashiyana nin walba uu saxiixi karaa moogta dadka oo dhan xil irmaanays way noqon karaan Soomaa laakiin aliyagu saama marka siyaasigu waa inuu helo meel uu ka doobiyo iyo geel lagu daro waa in la helo hardanka qoomida ma inaga baa ka reerihii baan ku mashquulnahay qaadki waxa Ethiopia naga maqan ma sheegayno qoomiyadaha kale 100 imisa way Ethiopia 83 qowmiyadood yaa Ethiopia ka jira ma sheegayno maanta oo dhan dib waxaan ugu noqonaynaa moogtahay degmooyinkeeni tuulada hebel ahayd madaxafiiseedka beeraha waxaa laga dhigay dawladda dhexe waxaan 300 oo hay'adood bay leedahay shaqaale kama hayno inta 25 wasiir baa jira laba Soomaali ah ku jirta
intaasoo hay-adood bay leedahay oo aynaan waxba ka ahayn dhaqaalaha la qaybiyo Ethiopia inta ugu yar energy-ga maxaa electron waxa ugu yar baa layna siiya dadkii Soomaalida waxaa lagu mashquulin elite-kii iyo kii qayilayay iyo kii daydayga ahaa localku bay ku mashquuliyeen tooshka lagu hayno bay ku hayaan xagga iyo buurtaba kuma qabanayaan moogto waxay naga maqan marka hardanka qowmiyadaha in qofka Soomaaliga muxuu ahay loogu daro waajibaadku u yaal oo waxa ku dhacay Shineele uu og yahay ninka jooga doolow maanta waxa ku dhacay maxaa laga soo riixay degmooy ummada kale aan hardamayna oo aad og tahay waxa kale oo dadka halkaas lagu mashquuliyay haddaad ku mashquuliso xaafadoodii labadiis qabtay baad kala diraysaa marka dambe qabyaaladu inay jaan goynid moogtahay hadda bahasha ina haysato xagee ka timid qabale war degmadii ka weynid baa la isku bedeli qabalaan maxaa la isku bedeli bal isweydii qabalahan siyaasadii TPLF ee ONLF lagu dirirayay that's all qabala la idin sameyn raashin waa la idin siin 30 nin waxaad qortaan dabaqood oo maleeshiyad liyaado qofna waa la idin shaqaaleyn ama kaari mid liyaadana mushaar baa loo qori halka qabala marka reebel ha konton qabalo oo jabhada sida u teedsan oo jabhada ka hortay way rabeen qabalahan eegayo shaqo la'aan baa yani shaqadiisu khalad weeye laakiin bariga shaqada ay TPLF u dhisatay wuxuu ahaa ka hortagga dhaqdhaqaaqa hubaysan ee ururka ONLF marka hadii qabalaha laga daayo raashinkan baada iyo ama kaar muxuu hada nabadgelyadu hadda ilaalin maxay ama kaar wadaad tuulo jooga cilmiga ku jiray la weydiin muxuu yahay la taliyay dhahan reeriis uu kala celinaya cilmiga dawladdu weydiin muxuu yahay la taliya ka noqonayo nothing waxa weeye waa inaan fahanno maxaa loo samaystay waxaan hadda joogin baa loo samaystay sababtaas oo ah hadii empower garan marka laga siibo fiilada asna rambas weligaaba qabala samee hadii lacagna lagu sii waayo qandaraasyadii kale daba socon jiray qabaluhu uu qiimo beeli waxaad reehel ku dishana ma jirayo marka siyaasadda hadda dawladana way xoojisay maxay ku samaysay odayaashii isu tagantay liyaba degmooyinka soo dhista leeyri madaxa bisooda gelis dawladdu way u dhislada iyadu fiire qaabkan u dhisanay qaab daridan madax xafiiseedka beeraha degmada maxaa ka dhigay siyaasi soo professional noqon sameeyo beer yaqaan ah horumarinta beeraha ma jirto sidii golaha wasiirada Ethiopia ba loo xifaa guddiga fulinta nahay baalkii baa nahay executive political status inay leeyihiin bas yaa laga dhigayaa muuqda kii caafimaadka noqon lahaa mid ayir siyaasi ah baa la keenayaa kii beeraha mid siyaasi ah la keenayaa odayaal siyaasadeed ba marka maxaa siyaasadeeyay maxay qabyaaladu u jaangoysay maamulka degmooyinka iyo qabalayaasha ka jira professionalka hadii dawladdu dhacday hadayna dhicin ba sii shaqeyn lahaa nin aan rabno 40 sano inuu khabiir noqdo qabiilka waxa la siiyay role uu siyaasadda ka qaato deedna taasoo dhalay deedna civil society mali ruuxina urur siyaasi ah galo iyo inuu muxuu ahay qabiilkooda dhex joogo oo degmada halayga qoro xabad xafiiseed ku meel u dhaxaysa oo dadka ra'yi caamka abuura dareenka guud iyo garaadka bulshada dadka dhisa ma aha dawladda iyo xisbiyada kaliya civil society civic hadda inoo abuurmaya idaacad madax banaan ma leed journal madax banaan ma leed xataa qoladiina daadis weligii resolution ma soo qoraysaan aad ku kitirsaas garanaysaan qolada ururka ONLF dawladda sida ay u maareysay marxaladan aan marayna dhaqaalaha nabadgelyada noocan u maarayna cid comment garaysa ma leh marka xageen iska akhrinaa sideedaba soo inaad muraayad soo taagta ma ma ogtahay marka daadis iyo civil society-gu haddaydan political ambition lahayn ninna ha u turinee bartanka kaga dhufto waxba idinka daadan maaye iyo horumar dhaqan dhaqaale inaan samayno dadka iskuulka lagu soo bartay qowmiyadaada Soomaalida dhaqaalaha qowmiyadaha kale geeska Afrika wacyiga waxa weeye iskuul wadani iskuul galaas wadani ama haysan iyo macallis wadani ah ardayga soo saarana isagoo afku labada ardayda jaamacadda jigjigan aanu bari ka qaaday waxaan ka qaaday imtixaan 35 arday baan la kulmay 18 kamid waxay baranayeen wax la yiraahdo muxuu ahaa accountant
waan fikir atonta soo kiiraaye soo koorsadii gaabnayda maxaa college yar diploma yar soo ma aduu hatta kama degree ba kama ama kama taantiga adduunka markaas oo maxay kama taantigani waan ogaado ku walba qasdeero waxaad u ag fadhiisto gudaydaya moogta markaas ay intaad ka lacagta qurmuuna Ethiopia aad u iskaga qaybinay intaad noqoto kuwa loo qaybiya dhakhtarka iyo injineerka iyo kuwa inta weyn dhug loo siiyay ma noqoto intaad kan yar bixinayo noqonaysaa ilaa ag fadhiisi marka iskuul wadani ah yaan u baahanahay carruurteena ku yiraahdo Soomaali baa tahay cilmiga lagu aflaxa akhlaaqda sharaf keenta magac xumid yes attitude-ka bini aadamka waxa lagu soo dhisaa iskuul baa lagu soo dhisaa iskuulkeen muxuu soo dhisay marka ruuxi oo waxay baa ku soo dega isagoo toosan ma suuxda ma soo toosi ruux ma soo toosay annaga ururka ONLF waxaan qabnaa dawlad wadani ah oo institutionna bulshadan xoojiya hadii la helo dadka Soomaalidu dadka ugu hogaamin fudud ee isugu jecel ee isugu muxuu ahaa isugu xurmeeya isu tanaasula ayay noqonayaan taariikhdan waan ku haynaa taariikhdan waa lagu hayaa marka kama dayrinayna insha Allah aan institutional samaysan aad u maasantiin haddaad rabto inaad kelmad ka tiraado adigoo soo koobaya maadaama saaka lagu sugayay in mataqaana aad la hadasho aad salaanto axsaabtii dhammaan way wada fadhiyaan bulshadii rayidka haweenkii dhalinyaradii marka nooma suurtagelin in mataqaana videoga aan soo saarno farsamada xagga technology-ga awgeed marka codkaaga kolley waxaan u malaynayaa inay maqli karaan waa la hadli kartaa السلام عليكم أصحاب طوائل السلامي يقرأ لي هذا الساعة وحيد من إذا كسو بيرو مركا ولدا إلى تكتي مركا بريد صبحنا ولي روني عند الله ملقينا مركا وحان وسلامتي من الإمام هيا مركا وتيجي واني ما عندنا لا إله وبيش مركا لا إله مركا حان ربيون لما أرمودنا مارتي أن إذن يا قريب ومرتي من مارتي إذن هاد عليل ومارتي بوغادين أن إذن توجيديو كصاب سنمارت civic forum civic political forum كساد أكسون تهين conciliation resources إيو دلقنا أخوجة الكتبارية وحي إسكي أنه أجدد ذايت هاي إنان ما أركتي bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta inaan isku soo dhaweyno maartay dadka Soomaalida isku fikir noqdaano maartay wixii raay ah iyo wixii tala ah iyo tusaale ah inay isweydaarsadaan marka ujeedada forumkan saas uu ahaa marka wuxuuna xiriir la leeyahay forumka kale qolooyinka siyaasadda kacani iyo kulli dadka meesha joogaan way shirka ka mid yihiin oo the forumki political parties ka mid yihiin marka forumkan waxaan ugu talagalay inay aha dhinacaasi iyo rayidka inay iswareystaan oo maartay wixii la isku soo jeedaan marka ummadda waxa waaye siyaasiyiin iyo odayaal iyo culimooyin iyo dumar iyo dhalinyaro iyo wax kasta weeyeen dadka siyaasiyiinta inay maaha waxaa fiican inay maartay tala iyo tusaale la soo jeediyo marka waxaan fikradda inay maartay maartay lana arrintaas shirka iyo maartay iyo wada tashiga marka hadda arrinta meesha ku fadhidin waxaa maartay arrintan ku saabsan qabiilka iyo maartay saameynta uu leeyahay siyaasadda iyo marka dhowr kulli tafxaan iyo Faisal iyo weyn la joogaan saxaabti Cabdullahi iyo marka waxay taas rabeen ka dhaho horta waxaan kala leeyahay positive na uu leeyahay negative na uu leeyahay hadda Soomaalida waxaan ugu badatay negative-kii ugu bato maaragtay dadka marka arrintaas laga dadka badadiis waxay dhahaan naga dhaaf arrin maaragtay waa arrin dadka kala geynayso marka laakiin waxaa fiican inaad dooda ku dirsatiin ma jira maaragtay wax uu leeyahay arrintan positive-ka dhinacan positive markaad ka
qabiilka ma jirtaa hadda ururkan muxuu ahaa aqoon-yahan Soomaaliyeed waa urur maaragtay ka tirsan qaybaha kala duwan ee qabaa'ilada iyo bulshada Soomaalida marka initiatives-kan iyo maaragtay waxyaa keenaya sida hadda dalladan camal ah waxaa fiican waxyaalahaas oo kale in dadka loo sheego oo maaragtay la soo saaro oo wala shaqeyntaas maaragtay ay dadku soo maaragtay wixii positive dhinaca positive ka fiiriyo arrinta aad maaragtay loo xayeysiiyo bulshada loogu sheego marka waxaa fiican haddii example-ya kalena way u jiraan kolleyto bal in la soo jeediyo yaa fiican arrin ayadana aan rabay inaan ku darsatiin dooda oo haddii aan rabay inaan adigana saaka idin kusoo biiro aan arrintaas aan ka qayb galon dhegeysto waxaad ka qabtiin hadda waan ku maqalnaa ka soco soo koob aadanow maadaama codka uu go-ayo xilli duurna waa joognaa marka arrintan waqti dambe waay marka arrintan kale dagaalkan qabaailadii soo badan hayo bal inaan ayadana aad fiirisin oo maaragtay wixii tala aad soo jeedisin arrimahan xuduudda iyo maaragtay boundarieska iyo waxaan la isku haasto marka inaad diiradda saartiin way fiican tahay marka hadalka waa kuma badanayay marka waxaa fiican inaad meesha ka soo saartiin oo weliba waxyaalaha midnimada Soomaalida dadka midnimadooda waxaa fiican principles iyo waxyaalaha inaad ka soo saartiin maaragtay shirkan intaad haddaysiin in la tashadana way fiican tahay laakiin wax ku kale in la soo saaraa fiican oo principles oo la dhihi karo maaragtay dadka Soomaalida midnimadooda waxyaalahan baa maaragtay buddig oo loo waxaan dhahay waxaa fiican inaad shirka ka soo saartiin muxuu ahaa principles oo ku saabsan sidii dadkan Soomaalida loo midayn lahaa xagga siyaasadda iyo xaggan maaragtay bulshada rayidka ba noqotee inay maaragtay bulshada soo saartiin oo waxyaalaha Soomaalida midnimadooda keenaya inaad ka soo saartiin baa fiican okay oo ay ku dhaqmi karaan dadka siyaasiyiinta iyo dawladda iyo muxuu ahaa hay'adaha kale bulshada iyo marka taasaa fiican inaad ka soo saartiin shirka marka wakaas aad u mahadsantihiin hadee qadka waan si fiican baa lagu maqlay aadan aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu uga mahad celinayaa dalladda aqoon-yahanka deegaanka marba abaabulka ay soo samayso howlaha bulshada ee taagan ay ka hadasho aad bay ugu mahadsan yihiin aad ugu martiqaadaan aad ku mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa ururada siyaasadda iyo bulshada rayidka ee meesha joogta aad baan idinkan idinku mahad celinayaa marka koowaad waxaan rabaa inaan picture yar bixiyo oo positive ummadda Soomaaliyeed yaa yidhi waa ummad xun oo qabiil baa dilay oo wax rajo ah ma leh arrintaa taariikhda haddii dib loogu noqdo kulli waxay sugaysaa waxaan taa ahayn taariikhdii hore haddaan dib ugu noqono dowladdii Axmed Gurey ee harar ka talin jirtay kutub baa laga qoray kitaab Fathul Xabash la yidhaahdo haddaad aqrido qabaa'ilka magac buu u sheegayaa ma ahayn wax la qariyay iyo wax la baabi'iyo toona intaad ogeydeen ee maamul intaasoo qarni harar ka jiray Soomaali meel bay ku qoran tahay gaalla meel bay ku qoran tahay dowladday ka wada tirsan yihiin dowladday askar u yihiin mid ku dhicina ma lahayn taa waa tusaale noo sheegi kara qabiilka siduu cadaani sheegay markay reer galbeedku yimaadeen unbaa si kale loo dhigay qabiilku nolosheenu ka mid ahaa tusaalaha kale bixinaya waxa weeyaan markuu isticmaalka reer Yurub yimid 15 wiil oo SYL la yidhaah oo laygu yidhi 5 baaba dugsi dhexa ka baxday inta kalena soo waxba iska ahaayeen qof aan waxba aqoonba from Djibouti iyo Jigjiga ilaa Wajeer bay mideeyeen maxay aqreen ma fadhiyadii way heshiisiin bay qabteen ma bajadyaa loo qabtay ma warshooyin ba ma waxa loo dhigay holol kuwan oo kala maya away qabiilkii marka hadda ogow qayb Faransiis baa haystay qaybna Ingiriis ka haystay qaybna Talyaaniga haystay shanta wiil maxay aqriyeen oo mucjiso ah yaa yidhi shacabka Soomaaliyeed ma aha shacab qabiilka ka sareeya stepka labaad kacaankii Maxamed Siyaad Barre markuu Soomaaliya ka dhacayay waxaa la yiraahdaa axzaab carrada ka badan baa jirta oo magac qabiil ku salaysan dawlad dhan oo waxay ahayd musuqmaasuqa baa la dhihi jirayba baarlamaankeeda iyo wixii oo dhan qabiil buu ku salaysnaa iyagoo dhowr nin oo military ah ayay dhaheen waddanku sidan miyuu ku jiri karaa maya 10kii sane u horeysay ummadda Soomaaliyeed waxay noqotay ummad ka sheegay Geeska Afrika ee nimankii kacaanka ay sida saxda u shaqeeyeen ilaa hadda haddaad gaari raacdo waxaad arki buur la yiraahdo Shalambood maxamed baad celinta
shalambood waa buur weliba buuraha yaryar maaha waa buur weyn anigu aan arkay buurtaa dad gacantii baa intii ciid la ururiyey iyo intii geeda la qaadaa bacaadka lagu joojinayay hal shilin dowladda soomaaliya kagama bixin shacabka soomaaliyeed baa bixiyey yaa bilaash ku shaqaynayay awey dadkii 80 xisbi kala ahaa ee qabaa'ilka ahaa shalay xaqiiqooyinkaasi marka mushkiladan haysataay waa taariikhdeenii yaa la inooga warramay deegaankanan hadda joogno 77kii markii Mangisto lala dagaalamayay ilaahay baa idinku dhaariyay qabiilkee ka hadhay ma cid baa dadka qasbaysay muxuu qabiilku u shaqayn waayay 77kii dagaalkii la galay qoyska Soomaali iyo kuwan isku si baa loo galay haye muxuu qabiilku caqabad u noqon waayay yaa yiri Soomaali mushkiladeedu waa qabiil anu su'aashaas dood baan ka qabaa waa cudur jira laakiin cudurrada jiro ugu yar yahay markii la siyaasadeeyay oo xaqi siyaasiga lagu qaybsaday markaas mushkiladu timid maanta marka fiiri Soomaaliya ama dadka Soomaaliga ku hadla inta waa intii wanaagsaneed Soomaaliya qabiilkii marka la xumeeyay fiiri intii la fadhiistaa waxa la sharciyeeyay wax la yiraahdo 4.5 fiiri dadka Soomaaliyada waqtigaa joogay yaa dad fiican ahaa kan maanta joogana wuu liitaa waxaana generationka soo saaray isticmaalkii ummadan qabsaday seen marka taariikhdeena maanta uga bilownaa waa qalad in taariikhdeena maanta ka bilowno waxaan leeyahay marka maanta rag Soomaaliyeed oo nool baa intay fadhiisteen bay waxay sharciyeeyeen 4.5 waa taariikh madow oo ummadda Soomaaliyeed hore u soo marin markaan Soomaali leenahay ka Muqdisho joogay ka Jigjiga joogay ka Wajeer joogay ka Djibouti joogay isku dad baan nahay ka waxa sameeyana inuu saameynaya marka waxaan rabaa inaan dhaho dadkii shalay 10 ka dhigay baan ahayn 500 sano tagtay maanta markii la bedelay 10 kan aan dhigaynaa marka ma taariikhdeena hore saxdayd baan wax ku dhisnaa mise taariikhdan layna guumeystay ee qaraarkeeni layna ka qaaday iyo go'aankeeni waxa aan sameynaa wax ku dhisnaa waxa dhahnaa Soomaalida qabiil baa burburiyay anigu arrintaas dood baan ka qabaa waxaan u imaanayaa marka xalku muxuu yahay anaga xisbigayaga horta marka koobaad waxaan ictiraafaynaa mushkiladan inay tahay mushkilad jirta laakiin kama dhigayno inay tahay mushkilada koobaad ee wadanka ka jirta mushkilad thaqaafi ah jirta oo fikri ah oo maanta taala yani fiiri mushkiladan hadda live ku daarnay kuwa ka waaweyn baa jira TPLF 30 sano ee tagtay dadkii Soomaaliyeed maskaxdii ka bedeshay maanta ninkii ka hadla sharaf iyo ummadeena waxaan ma qabatana waxa la leeyahay adu xageed ka timid taasa mushkilad xaqiiqi ah nin hadda oday ah ama dadka qabiilka lagu sheegaya oo hor istaagaya danta ummadda ma jiro laakiin wiilkii TPLF intay qaaday oo maskaxdiisa bedeshay maanta joogay wuxuu hor istaagi masaalixda ummadda waana xaqiiqo jirta way ninka hadda yimid fikrad kale la yimaadana waxa la yiraahdaa adu ma kuwii maskax falooqa qayb duurka ka yimid baaday dibadaha ka yimid generation taas caqabad xaqiiqi ah laba generation oo kala duwan inay wadankii joogaan generation maqala lagu soo diyaariyay iyo generation lagu soo diyaariyay isla weynan Soomaalinimo gobonnimo doonnimo dareen ummadeed 30 sano ku maqnaa iyo generation lab intii la geliyo maqala ah la yiri adiga ninka rabnaa waa adiga intaas waa iga wixii cid goonaan oo lama jeedo runtii taas marka jeclaan lahayn leedka lagu daaro inta tan hadda qadiyad laga dhigayo xalka markaan u imaado أنا وحنا مسنه مشكلة قبيلكو مقعدة إنا بدلو وأنا بدل ظلمي حد جذب مقعدها سي قيب كتها وفكتر كمدة ظلمي قاعد قبل يدو قبيلكو ما هو واحد من قبيلة ولا جيدا حل كنا وحوي عدالة وفيرس Soomaali hadda sida loo marin habaabiyay fiiri Soomaali weyn maxaa la yiri ظلمي baa idin haysta ee loo xaliyaa lama dhihin waxa lagu yiri qabiil baa idin haysta ee loo xaliyaa markaas waxay dhahan 4.5 baa lagu xaliyaa marin habaabin weey waxaan haystaa qabiil ma aha ظلمي 100 sano lagu soo waday oo la qaabeeyay oo shaati qabiil loo geliyay degmo hadda marka la sameeyo maxaa la dhihi mataqaana fiiri ظلمiga ay sameysay systemka meeshan ka jiray degmada la dhihi maayo waa degmo deegaanka ka tirsan marka la sameeyo la leeyahay degmadan Ree Hebel baale oo maxamed Ree Hebel loogu daba wadaa degmadan dawladda leh laana isticmaalka waxa watay nimankii gangsterka ay meesha joogay baa watay waxaan marka rabaa inaan dhaho waxani wuxuu qayb ka yahay ظلمiga mujtamaca ka dhaxdhaca xalkiisuna waa cadaalad anagu saasana aaminsannahay ظلمi weeye xalkiisuna waa cadaalad ee qabiil ma aha xalkiisuna 4.5 ma aha marka base-ka ku kala duwannahay aniga magac bixintan ku kala duwannahay xalkan waan ku kala duwannahay dad badan oo kiiskan soo dhigaya si loo helo marka cadaalad laba shay baan anagu
xisbiga haddaan nahay aan diyaarinaynaa nidaam qoran oo cadaalad ku salaysan iyo qofkii cadaaladdan fulin lahaa maanta waxaa laga yaabaa nidaamka waddanka u qoran haddaad fiiriso waa quruxsan yahay laakiin qofka la soo saaray ee la rabo inuu apply gareeyo ama fuliyo isagii baa loo diyaariyey inuu corrupted noqdo inuu qabiil noqdo inuu awood isticmaalo inuu wax boobo qofka hab kale loo soo diyaariyey laakiin nidaam quruxsan baa Ethiopia oo dhan ba u qoran sidaa darteed dulmi baa dhacay xalku waa cadaalad qabiil ma aha xalkuna 4.5 ma aha clear halka horta ha cadaato labo haddii aan rabno inaan xallino laba shay baan ku xallinaynaa nidaam cadaalad ah iyo qof caadila inaan samayno intaas weeye hal tusaalaan halkaa dhex gelin nin la dhihi jiray cumar bin cabdilcaziz baa wuxuu yimid waqti dulmi dowladda adduunka intaan aanu akhriyay dunida islaamka soo martay dowladda ugu dulmi badnayd dowladdii waxay ahayd gobollo ka mid a dadka tiim bara wejiga lagaga dhufan jiray tiim bare Soomaaliya dadkan taatuugiya isku sameeyay dhiiggay gashaa moogta halkana waxaa lagaga dhufan jiray dadka mawla wax la yidhaahdo tiim bara oo dhiiggaaga galaya oo mar walba kugu qoran nin xajaaj la yidhahdo mashruuca keenay wuxuu yidhi dadkan carabta ahayn ee muslimiinta ah waxay fasahaadinayaan luqada carabiga si ayna magaalooyinka u soo gelin ha lagu hayo tuulooyinka marka qofkii magaalada dadka laga garanayo laakiin maxaa lagu garantiin bara halka kaga yaala boolistu way qaban marka waraaq baa la soo siin jiray 3 bari magaalada kaga soo danaysta waa la raaf dulmigii halkaa joogay nin baa yimid Umar bin Cabdilcaziz la yiraahdo lecture ma qabanin CRN maxay CR Soomaaliya mise maxay qoladii aqoonyahan kuna shir umayna qabanin shir la yiraahdo dib u heshiisiinta ummadana lama qabanin bas Umar bin Cabdilcaziz cadaalad buu la yimid finish heer wuxuu gaaray markii dambe la dhihi jiray xataa dhurwaagu ariga ma cuni jiray waqtigiisii dadka dee warka sheeg waxaan u baahnaa marka nidaam cadaalad ah iyo qofkii cadaaladdan loo soo tababaray intaasaan taana dhihi lahaa waxaan u imaanayaa technician ahaan hawshaan seen ugu soo degaa mushkilooyinka jira deegaankeenna ee qabiilka koos garaynaya ee in la xalliyo u baahan mid waa mushkilada dhulka midna waa mushkilada faqriga mushkilada dhulka yani waxyaabaha qabiilka hadda xoogeynaya dadku ay ka aqrinayaan inuu qabiil mushkilo jirto faktarada ama maxaa la wax qadada siinaya mid waa dhulka midna waa xaqa siyaasiga midna waa faqriga midna waa jahliga anu afartaas ku soo ururiyayba intii aan inteeda maskaxdayda ay gaadhay mushkilada dhulku waa mushkilo systemku abuuray ma ahayn mushkilo dadkan dhex taalay 30 sano gudahooda waxaan u caqlinay iyada oo nin magaalada tuulana ku haysanin oo la wada nool yahay laakiin maxaa la abuuray meeshii dhulka ahayd baa waxaa lagu daray magac anu waxaan joogay systemkii hore markuu joogay waxaa la leeyahay degma la sameynaya la dhihi maayo degma la sameynaya waxaa la leeyahay ree hebel baa degma loo sameynaya waa erey bixin qoyskii kale la deganaa marka wuxuu leeyahay ana degma hal ay siiyo dhibka ma shacabka keenay mise systemka keenay idan yaa nala dhihin shacabka iyo qabiiliyadu ka timid ee systemka abuuray mushkilada dhulka marka xalkeedu muxuu yahay si dabiici ah in lagu soo celiyo shacabku wuu hogaansanaaba wuu ogolaaba la iskuma diidaneen inay dawladdu dhulka leedahay maamulayso shacabkuna uu dago ana halkaas aan ku soo celinaynaa ugaasku markuu noo yimaado uu leeyahay degmadanada reehebel waxaan leenahay maya dhulkan adigu malihid adoo ugaas maxamed oo shakhsi ah ila hadal ma gurigaaga dhib ka jiraan mise beertaadi dawladda dhulkan leh dawladdaana cadaalad laga rabaa anagaana ka mas'uula degmadan dadka degan adigu ka mas'uul ma tiid halkaas shacabku uu ogolaa laakiin waa laga saaray marka halkii uu ogolaa baan dib ugu soo celinaynaa mushkilada dhulka mushkilada kale waxaa mushkilada siyaasadda habka wax qaybsiga ee 4.5ka lagu qaybiyey xaqiiqatan dulmi waa jiray systemyadii hore laakiin ugu yaraan dulmi wuxuu ahaa aan tiimbara lagu dhufanin la yiraahdo qabaa'il aan wax ku qaybsanno dawladdan cusub waxay la timid intaasoo qabiilaan meesha ku deganahay aan wax ku qaybsanno exactly waa koobi muqdisho baa la keenay halkan tii hore dulmigu waa jiray laakiin muxuu u baahnaa in dulmigii la zuuliyo laakiin hadda waa loo magac bixiyey dulmigii baa la sharcaneeyey oo sharci laga dhigay annaga marka waxaan leenahay xaqa siyaasiga waxaan ku qaybin doonaa maxaa la yidhahdaa awoodda qofka aqoontiisa mustawihiisa wuxuu waddanka kusoo kordhin karo hadda nin baa sheegaya hadda ay lahaa haddaan intaan jaamacadda jiray aan odayaasha iyadoo baran lahaa fiir hadda wiilkaa waa PhD laakiin odaygu ilaa uu geeyo meesha madaxtooyada uu yidhahda reer hebel annaga ninkanaa noo ah barasaab ama wasiir lama siinayo shaqada dulmiga ka weyna qof aqoon-yahana lagu samayn lahaa muxuu yahay waxaan leenahay marka waxaan kusoo celinaynaa
meeshii dabiiciga ahayd oo ah shahaadadee buu haystaa muxuu kusoo takhasusay petroleum engineering adigoo ah ceelka batroolka inaan 4.5 nin ree hebela oon petroleum engineering ahayn laakiin meesha batroolka reerkoodu dego inaan ku bixiyo soo xaaraan maaha taasaan joojinaynaa waxaan leenahay waa petroleum engineering gobolkana uma dhalanin ama wasaaraddana isagaa qabanaya saasaan rabnaa inaan usoo celino mushkilada kale taa waa xaqa siyaasiga ah ta kale waxay mushkilada faqriga annagu xisbi haddaan nahay waxaan diyaarinay buug dhan oo la yidhaahdo mushkilada faqriga xaqiiqatanna wadamo badan baan kasoo koobiyeynay especially waddankan Malaysia la yidhaahdo nin baa wuxuu yimid isagoo 50% faqrigu yahay caawana 0 buu gaadhay 22 sano gudahood waa daraaso laga faa'iideysan karo ma aha inaan iyada say tahay u qaadanayno laakiin wadamo badan baan kasoo ururinay mushkilada faqrigu laba qoys baan markala dhex galay markaas waxaan ku yiri jaga isku haystaan tu hadda cadaan sheegay madax xafiiseed bay isku haysteen waxaan ku wiilkiisa $200 wax dhigma ma qaadanaya ha meentaas isku haystaan ka waran haddii mid walba 100 kun heli lahaa idinka manigilna ma wada hadleen bay dhaheen wayba noo sheegeenba madax xafiiseedkan la isku ma haysta waxa la isku haystaa $200 ama inta uu boobayo wiilkan la qayilayo intaas la isku hayaa sidaa darteed faqriga hab lagu la dagaalamaa jira oon u malaynaya dad badan inayna fahansanayn diinteena islaamka wax zaka la yiraahdo baa jira hadda wax zaka nadaaminaya ma aragteen nin waxaad arki sanad walba gabadh walaashiya ama ku abtiga abu nafsiya sanadka dambana uu baahan yahay isla duqi ama walaashi ama ila xal ma wahaye inta yar buu qaybiyaa sanduuq la yiraahdo sanduuq zakat oo ah private sector baan sameeynaynaa sanduuqaasi isagu jeebka dadku la tacaamulaa mashaariicdan iyo dawladda shaqo kuma leh iyo shaqo abuurka waa mashruuc dir kaamil marka waxaan rabaa ka wuxuu xalin doonaa reerkan abaabulan aad arkaysa saaka soo kalahay yaa meesha ka bixi doona ee nolol doonka ah ee wallahi haddaan hebel shaqada nolol dhiibin waa islaynayna mushkilada dhaqaalahaas aanu xalino mashruuc waxaa jiray annaga berigii 2010kii aanu Ethiopia heshiiska la saxiixan jirnay aan keenay oo rabnaa inaan dib u soo noolayno runtii Ethiopia gobolada dib u dhacay wax badan baa loo ogolaa ani waqtiga hadda maanta ma ogin laakiin waqtiga waxay dhihi jireen gobolada iyagu ay qoreen baa jiro gobolada dib u dhacay see xal looga keenaa annagu xal baan berigaa keenay waxaan idhi deegaankana Soomaalidu maadaama uu deegaankii ugu dhibka badan ku dhacay 10 sano canshuur dhaaf hala siiyo isbaarada canshuurta waxaan dhigaynaa meesha deegaanka Soomaalida lagaga baxo wajaala maaha proposalka caawa waa noo yaala haddaan anaga axsaabtii inta iskaashano dawladda aan Ethiopia la tagno ogaada waa wax ka gadmaya beriga waxaan xasuustaa inaan keenay wax la yiraahdo dib u dhiska deegaanka Soomaalida waliba dawladda noo ballan qaaday oo yiri anaga donate dadkii wax bixin lahaa diyaarinayna dawladda Ethiopia ka keena in aan shirka qabanno waan geynay xafiiska ra'iisul wasaaraha waliba nalama fogeynin waxaan leeyahay waan darsaynaa hada kadib wixii ka dambeeya laakiin ilaa hadda wax jiro way ogaada caawa haddaan anaga iyo axsaabtii dawladda iskaashano oo ku dhawaaqno mashruuc la yiraahdo dib u dhiska deegaanka Soomaalida ee dib u dhacay oo baagaj dhan hoos gelino canshuurta 10 sano laga dhaafo dawladaha iyo caalamka shir lagu qabto la yiraahdo wadanka uu burburay dib ha loo dhiso waa waxyaabaha wadankeena keeni kara inay ummadani kala shaqo tagaan oo ninka madax xafiiseedka aan la isku laynin qodobka kale wax ku xalinayna waxa kamid ah waxa la yiraahdo gole dhaqan fiiriye shacabkeenu laba furu leeyahay waxa kale oo dhan gadaal buu ka yimi laba furu shacabkeenu leeyahay furaha dhaqanka iyo furaha culamaa diinka ururadii siyaasadda wadankeena waa ku cusub yihiin soo moogin dadkeena nin kasta oo labadaa fura garab maraay wuu ku jabaa hadda dawladda deegaankeena 30 sano waxay la kacaa ku fayso wax weeyaan furayowgii bayna si sax u mareen hadday martana waxay ka dhigeen wax iyadu danaheedu adeegsato gole dhaqan oo waxaan u baahanahay sharciyeysan waana keenay anagu proposalkeedii maraan Mustafa la taliyo u ahaa proposal 15 page waxaan u dhiibay 110 oday dhaqan oo sharci ah oo mushaar leh oo xafiis la inaan sameeyno muhiimadoodina waan qornay siyaasadda shaqo kuma leh laakiin maxay shaqo ku leeyihiin shacabka dhexdiisa inay kala celiyaan shacabka iyo dawladda wixii dhaxmarinaya waxa xaliyaan wiil yar oo amni ah oo 5 qabaal wata loo diray marka laba qabiil isku dhacaan daw kala dhex degin muxuu kala qaban karaa dawladda intaas u noqday dawrkeedii laakiin ka waran 15 oday marka intaan gaadhiga shidaal ugu shubo aan dhaho reehbel soo xalliyo geedka hoostiisa fadhiisinayaan wayna xalinayaan waana aragnay hadda wax badan oo la xaliyay waxay qayb ka tahay marka golahaasi wuxuu xalin doonaa qiimeeyntayada wax badan oo bulshada dhexdeeda oo hawlaha aan sheegaynaa waxyaabahan adeegsan doona waxaa kamid ah golaha aqoon-yahanka mutacalimiinta